الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku dhex jirnay qisooyinkii khulafaa urashidiin ee uu noogu soo horeeyey abubakar radia allahu tacaala canhu. waxaan soo ogaanay abubakar mar allaala marka nebigu dhintay kadib axadka ugu horeeyey khilaafada loo doortay oo booska nebiga geli kara inuu asagu markaa yahay. sidaa darteed buu si hagaagsan oo wacan saan soo tilmaanay taariikhdiisa ayuu wax u maamulay. wax badan ma uusan haynin khilaafada saan soo ogaanay markaan kasoo hadlaynay taariikhdii abuubakaroo 2 sano iyo wax yar unbuu maamulka haayay. howlihii ugu waaweynaa ee uu qabtayna waxaan wax ka soo ogaanay inay ahaayeen dadkii ridoobay ee islaamka ka laabtay inuu ridada ka soo celiyo. abubakar taariikhdiisa saas ayaan ku soo ogaanay. waxaanu geli doonaa ninka ku xiga ama saxaabiga kale ku xiga ee abubakar uga dambeeyey khilaafada waa cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu. qisada cumar ayaana wax ka tilmaami doonaa intii rabbi naga karsiiyo. cumar ilaahay ha ka raadi noqdo waxaa lagu laqibi jiray faaruuq ama bilfaaruuq. waa khaliifkii ama waa khulafaa urashidiin koodii labaad ayuu ka mid ahaa cumar ama uu ahaa. cumar wuxuu ahaa asxaabta rasuulka kuwa ugu waaweyn 10kii jannada loogu bishaareeyeyna waa uu ku jiray cumar radia allahu tacaala canhu. cumar haliyey ayuu ahaa. xilli jaahiliya ayuu soo maray cumar. xilli aad aad u dhib badan ayuu soo maray cumar sida aan arki doonno marka aan taariikhdiisa guda galno. cumar wuxuu noqon doonaa ama uu ka mid ahaa dadka asxaabta nebiga aad u dhibi jiray, garaaci jiray, islaamkana ka hor istaagi jiray intuusan soo islaamin. ilaahay ha ka raadi noqdo cumar radia allahu canhu. xantamata binti haashim bin mugiira ayaa la oran jiray hooyadii dhashay cumar. hooyadii xantamata ayaa la oran jiray binti haashim bin almugiira oo waxay la dhalatay abujahal. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala cumar wiilka cumar la yidhaahdo hooyadii ay ahayd. cumar waxaa la dhalay markii caamulfiil ay dhacday kadib. dhalashada rasuulka sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ka dambeeyey 13 sano cumar radia allahu canhu. idan rasuulka ayaa ka weyn cumar oo 13 sano ayuu nebigu ka weyn yahay cumar radia allahu canhu. oo caamulfiil kadib ayuu dhashay. rasuulkana caamulfiil buu ku dhashay. dhalashadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam 13 sano ayuu ka dambeeyey cumar. intaa kadib wuxuu ku barbaaray quraysh gudaheeda. wuxuu ku caanbaxsanaa inuu aad iyo aad u yiqiinay tacliinta qiraa'ada ama aqrinta iyo qoraalka. cumar radia allahu canhu raaciyan buu ahaa baa la yidhi mid geela raaca mar allaala markii uu yaraa saqiirna uu ahaa cumar. aabbihii khaliid ayuu ahaa oo aad buu u kakanaa xagga mucaamalka marka la yidhaahdo cumar ibn alkhadaab aabbihii. cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu waxa uu ka mid ahaa quraysh kuwooda ugu sharafta badan. cumar wuu barbaaray, wuxuuna ku barbaaray bay-ad carabiya ah, jaahiliyad ah, wathaniyad ah oo diinka qoomkiisii oo imtiqaanaa jaahiliga ahaa ooy asnaamtu caabudi jireen ayuu ku dhex barbaaray cumar radia allahu canhu. mar allaala marka nebiga lasoo diray sala allahu calayhi wasalam adduunkana uu ka bidhaamay nuurkii islaamka. rasuulka sala allahu calayhi wasalam afkiisana uu ka burqanayo kelimada tawxiidkee laa ilaaha ila allah
taasoo loo baahnaa in mujtamacii jaahiliga ahaa looga bixiyo mugdiga, dulumaadka, jahliga, shirkiga iyo waxyaabaha faraha badan oo ay caabudi jireen ilaahay kayrkii ayaa rasuulka loo soo diray sala allahu calayhi wasalam. cumar dadkii degdeg u qaatay oo rumeeyey muusan ka mid ahayn, balse wuxuu ku soo jeestay inuu ciqaabo, cadaabo, dhibaatana gaarsiiyo qof kasta ee uu ku arko ama uu ku maqlo inuu nebi moxamed rumeeyey sala allahu calayhi wasalam. saan arki doonno cumar wuxuu islaamayaa sannada 6aad ee bicfada nebiga sala allahu calayhi wasalam. mar allaala marka rasuulku uu amray nimankii muhaajiriinta ahaa inay maka isaga baxaan markay dhibtoodeen ayna u hijroodaan dhulka xabasho ayagoo ku maqan ayuu islaami doonaa cumar radia allahu canhu, sida aan markaa arki doonno. cumar ilaahay ha ka raali noqdo, mar allaala markii dhibaatada iyo cadaadiska uu ku hayay dadkii muslimiintaee weliba mustadcafiinta ahaa, waxaa taariikhdu ay tilmaantaa oo la wariyaa mararka gobol ka mid ah in allaala inta uu ku arko ama uu ku ogaado inay nebiga rumeeyeen inuu garaaci jiray. mar allaala markuu garaacayo cumarna uu ahaa nin qawi ah oo xoog badan, asoo garaacaya iska daa qofka islaamka uu garaacaye cumar ilaa malal uu gaaro uu daalo oo gacantiisu ay daasho ayuu ku wadi jiray ilaa daalka asaga uu daalay darteed uu markaa isaga joojiyo. cumar ilaahay ha ka raadi noqdo, markuu islaamku soo gelayay ama islaamku intuu soo gelin waxaa jirtay bishaaraad qalbigiisa ilaahay marba marka ka dambaysa uu gelin jiray. taariikhda qaar baa waxay warisaa cumar ilaahay ha ka raadi noqdee intuusan islaamin nebiga oo qiraa'ada aqrinaya ama qur-aanka kacbada ku aqrinaya yuu habeen u dhuuntay. rasuulkuna wuxuu aqrinaya suuratu alxaaq. mar allaala marka aayadihii dambe iyo meesha gebagabada uu soo gaaray, rasuulka sala allahu calayh wasalam qiraa'adiisana ta'hiir bay markaa lahayd. cumar intuu aad u yaabay qiraa'adaa rasuulkuu aqrinayo ayuu yidhi armaa ninku uu saaxir yahay, ninkani amuu shaacir yahay. nebigu ula jeedaa sala allahu calayh wasalam, waayo qur-aanka kayfiyaddu isku haysto, habka iyo hanaanka, quruxda iyo sida fiicane markaa uu u hadlaayo ayaa intuu la yaabay wuxuu yidhi armee ninkaani uu yahay nin shaacir ah. kolkaa buu rasuulku soo gaaray sala allahu calayhi wasalam, wamaa huwa biqowli shaacirin qaliilan maa tu'minuun. wamaa huwa biqowli shaacir, abwaan qowlkiisa ma aha qur'aankani qaliilan maa tu'minuun. aad buu u yaabay haddana alla ninku waa kaahin buu yidhi, suu ii ogaaday. walaa biqowli kaahin tadakaruun ayuu rasuulku haddana raacsiiyey. walaa biqowli kaahin, kaahin faalow kan dhulka wax ku dhigay xidigaha fiiriya qowlkiisa ma aha. qaliilan maa tadakkaruuna, inta waana qaadanaysaa yar, tanziil min rabbi alcaalamiin. taa markay dhacday cumar radia allahu canhu qalbigiisa waxbaa ku bidhaamay, laakiin islaamku weli ma soo gelin. wax buu ta'hiir dareemay, laakiin weli ma uusan ka joogsanin inuu cadaadiyo dadkii muslimiinta ahaa. weli muusan dhaafin inuu cadaaweeyo ama soo cadaabo u qaada islaamkii muslimiinta iyo nebi moxamedba sala allahu calayhi wasalam. laakiin nasiib wanaag, ilaahay ayaa cumar khayr la doonay. rasuulkaa maalin ducaystay, ducadiisa waxaa ka mid ahaa ilaahayow 2 cumarkaad jeceshaa islaamka igu soo ayid. cumar ibn alkhadaab iyo cumar ibn hishaam waa abijahal ninka lagu magacaabo iyo ninka lagu magacaabo cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu. ilaahow labadaa midkaad jeceshahay ilaahay sida islaamka igu soo adkeey. waayo cumar haliyey geesi ah oo libaaxa ayuu ahaa. abi xafsin baa lagu kunyeyn jiray aabbihii libaaxa. abijahal kama uusan yarayn, asagana haliyey ayuu ahaa, geesi ah, aad iyo aadna looga dambeeyo quraysh oo idin. sidaa darteed ducada rasuulku waxay ahayd rabbiyow 2 cumar kii xaggaaga loogu jacayl badan yahay ku soo ayid oo iisoo islaami. waxaa horay u islaamay saciid ibnu zayd oo seedigii ah oo walaashii qaba, iyo faadimo bint alkhadaab oo cumar walaashii ah. faadima bint alkhadaab
iyo ninkeeda saciid ibnu zayd waa ilmo adeer. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu doonay familka faadimo iyo ninkeeda inay islaamka galaan, oy rabbi rumeeyaan, oy daacada alla qaataan, qur'aanka allana ay bartaan. macallin baa guriga ugu imaan jiray, maalinba waxyiga soo dega iyo qur'aanka nabiga lagu soo dejiyaa loo aqrin jiray, waana la bari jiray. waxaa u aqrin jiray ninkii saxaabiga cajiibka badan lahaa, waa khabaab bin al-arat ninka lagu magacaabo. khabaab mar allaala markuu u yimaado qur'aanku wuu aqrin jiray. sidaa darteed baa waxaa soo degtay suuratu taaha. mar allaala markay suuraddaa soo degtay, warqaddii ay ku qornayd ayaa loo keenay saciid iyo gabadhii uu qabay faadimo ahayd, cumarna la dhalatay, asagoo u aqrinaya oo qur'aankii u daarisaya oo wixii la baraya diinkii iyo khayrkii iyo wanaaggii ahaa. ayaa waxaa dhacday cumar ibn alkhadaabna maalinta inuu go-aan ku gaaray inuu ka taqalluso nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. seef buu soo qaatay, shawax asaga oo garwaxsan oo seefta garabka u suran tahay ayuu soo baxay baa la yidhi. xaggee buu usoo socdaa? nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu soo dilo. wuu raadinayaa. nin baa ka hor yimid oo yidhi cumrow xaggeed u khasdaysaa waad u socotaa? ninkaa bidciga ah ee istustuska badan ee diinta haleeyey ee ummadii kala geeyey ee dadkii mataqaana caqliga badnaa sufaha ku tilmaamay oo wadajirkeennii kala googooyey ayaan rabaa inaan kasoo takhalluso. wallahi naftaad ku kadsoomaysaa buu yidhi. maxaa kuu geeya ninka? war familkaagii iyo dadkaagii oo hoostaadii ka taalaa arrinta. faadima bint alkhadaab oo walaashaa ah, ninkeedii saciid ibnu zayd qad aslama, way islaameen. haddaad wax qabanayso, war ragga adiga kuu dhashay oo familkaaga ahee dhexdaada ku jira ee walaashii kula dhalatay iyo wiilkiina adeerkay aad tihiinee qaba, ayaga tallaabo ka qaad. seef baad wadataa, nebi maxamed baad u socotaa. xaggii uga socotaa nebi maxamed? maxaa kuu geeyey? familkaaga maad wax ka qabatid? cumar wuu soo laabtay radia allahu canhu, markaa muusan soo islaamin weli. mar allaala markuu soo laabtay ee uu soo noqday ayaa wuxuu soo aaday guriga walaashii. shanqartii cumar baa la dareemay. cumar hagunkiisii dhaqdhaqaaqiisii bay dareemeen. nin aad looga baqa ayuu ahaa cumar. nin qawi ahoo xoog badan buu ahaa cumar. nin haybad ilaahay siiya buu ahaa cumar radia allahu canhu. intaa wixii ka dambeeya macallinkiina waa la qariyey. duqdush iyo coos iyo wax meesha yaalay ayaa hoosta laga dhexgeliyey. warqadiina waa la qariyey. gabadhii iyo ninkeediina way ishor fadhiisteen oo sheekay bilowdeen. ilaa ninkan waa nin khatar ah, waa dilayaa, qofuu ka gabanaya ma jiro. mar allaala markuu albaabka soo galay buu yidhi, war waa maxay huguntaan idinka maqlaayay? huguntiini maxay ahayd buu yidhi. war waa sheekaysanayni nagata, soo nin naag isqaba ma nihin, soo ma sheekaysan karno. war waxaas iga daaya buu yidhi. waxaad sheegayseen ama aada akrinayseen halkaa iisoo dhiga. cabbaar bay isku dayeen inay celiyaan, cabbaar bay isku dayeen inay diidaan, cabbaar bay isku dayeen inay mataqaanaa maaweeliyaan, laakiin waa soo taagan yahay cumar radia allahu canhu. intaa wixii ka dambeeyey ayaa intuu soo booday saciid uu saas u qabtaa kor loo qaaday saciid. ilaa cumar wuxuu ahaa nin qawi ahoo xoog badan. faadimaa damacday inay ka dhicisay ka celiso, hal dharbaaxo la yaqaan intuu usoo tuuro halkaa kaga dhuftaa, dhiig bannaanka uga soo baxay. mar allaala markay xaaladdu meesha maraysay ayaa la yidhi, war wax allaala waxaad doonta sameey, waxaad doontana keen, anaguna waan islaamnay. warqadaasaan markaa akrinaynay. warqadii baa loo soo bixiyey. warqadaasaan akrinaynay. cumar markuu arkay walaashii dhiigga ka socda, ilaa carabtu aad bay gabdhuhu u xushmayn jireen, ayadoo xaaladdu ay saa tahay ayuu yidhi isii warqadaan akriyay. waa loo diiday. saan hadda soo tilmaannay, cumar wuxuu aad iyo aad ugu dheereeyey xagga kitaabada. wuxuu mumtaaz ahaa uu kaga socnaa dhallinyarada quraysheed xagga qoraalka iyo akhrinta. nin aad u yaqaana buu ahaa. saa darteed warqadii way u diideen, laakiin wuxuu ku dhaartay laata iyo cuza inuusan wax dhibaataa gaarsiinaynin. warqadii baa loo dhiibay. bismillahi raxmaan raxiim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله
إلا هو له الأسماء الحسنى. aayadaha cajiibka badan baa ku qoran. cumar indhiisii biyaa ka soo daatay. cumar ilaahay baa xaqa la doonay subxaana wa tacaala. cumar ilaahay baa u ajibay ducadii nebi moxamed, ilaahayow laba cumar midkood iisoo islaamiyo islaamka iigu soo ayidi. cumar ibn khadaab buu noqday. daaha allahu aclam bimuraadih. maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa, kugumaanan soo dejin qur'aankaa nebi moxamedo inaad ku dhibtootoon kugu dhibno, ilaa tadkiratan liman yakhshaa, waa waano qofka cabsanaya ayuu u yahay. tanziilan miman khalaqa alarda waasamaawaati alculaa, waa tanziil iyo dejin macbuudka samaawaadkii arlada samaawaadka sarsareeya abuuray xaggiisa laga soo dejiyey. waa allaha naxariista badan, carshiga dushiisana ku ekaaday, samaawaadkii arlada waxa ku jira iyo waxa u dhaxeeya, iyo wamaa taxta atharaa, ciidda qoyan hoosteeda wixii ahaaday, waa macbuudkii lahaa, allihii lahaa, allihii abuurtay, allahay u sugnaadeen, allaha xaggiisaa laga soo dejiyey. iyo wamaa taxta atharaa wain tajhar bilqowl fainahu yaclamu sira waakfaa, haddaad qowl la jaharto ama aada la siriyaysataba, ilaahay sirtii waxa qarsoon wuu og yahay. allahu laa ilaaha ilaa huwa lahu alasmaa'u alxusnaa. alla maxaa ka wanaag badan buu yidhi, alla maxaa ka macaan badan, alla qurux badnaa hadalkan. war aaway nebi moxamed xaaladaasuu markaa tilmaamay macallinkii khabaab bin arad ahaa ee meesha lagu dhuumiyey ee lagu qariyay, markaasuu degdeg ooga soo baxay asagoo dhahaya allaha allah, ilaahay cumar bishaarayso, waayo shalay ama darara waxaan maqlay nebiga oo dhahaya ilaahayow islaamka ku ayid laba cumar midkood, waa cumar ibn khadaab ama cumar ibn hishaam oo abijahl markaa ah. adigaa noqotay, warwarka badan iga daaya nebi maxamed iigey buu yidhi. allahu akbar. seef buu watay inuu soo diluu u socday, laakiin haddeertaan ilaahay baa subxaana wa tacaala qalbigiisa ku inshiraaxiyey oo ku waasiciyey islaamnimada. nebi moxamed ayuu rabaa inuu soo salaamo, inuu islaamnimada hortiisa ku bandhigo, inuu difaaco. man yurid allahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam, qofkuu ilaahay hanuun la doono laabtiisuu islaamka ku sharxaa kuna waasiciyaa ilaahay subxaana wa tacaala. cumar mar allaala markii xaaladiisu meeshaa maraysa waa lasoo kaxeeyey. mar allaala markii lasoo kaxeeyey lasoo waday ayaa nebi moxamed loo keenay sala allahu calayhi wasalam oo ku jira daarta arqam ibna abilarqam. markaasuu albaabka garaacay. 3 maalmood ka hor ayaa waxaa soo islaamay xamzi ibni cabdilmuطalib. xamzi ibni cabdilmuطalib 3 maalmood ayuu ka horeeyey islaamnimadii cumar, oo xamza 3 maalmood horeeyey. ilaahayna uu kusoo dejiyey awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas kaman mahalhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha. nin meyd ahaan jiray, macnaha aan islaamka ku soconin, aan hidaayadda iyo tawxiid ka qaadanin, oo shirkii waxyaabo kale ku jira, ilan waa meydi. awaman kaana maytan faaxyaynaahu, oo aan noolaynay nuurkii islaamnimada, noloshii hidaayada, noloshii iimaanka, noloshii tawxiidka lagu nooleeyey. intaa ka bacdi nuur ku dhex sugan oo dadka dhexdiisa la dhex maraya, kaman mahalhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha. nin mugdiyaala ku dhex jiro cid ka saaraysa uusan haysan, ma isku midba. saasaa lagu dejiyey cabdilmuطalib maruu soo islaamay. cumar radia allahu canhu 3 maalmood ka islaam horeeyey xamza. mar allaala markay soo baxay lasoo kaxeeyey, saxaabada inta yareed ee markaas soo islaamtay kula jirtay rasuulka qowlada, intay duleelka ka fiiriyeen bay dheen yaa rasuul allah, waa cumar oo seeftiisii garwaxsan. way kala carareen, meelay kalaan bay waayeen, hal meel bay isugu aroreen. xamza yidhi maa sha'nukum, war maxaa idinku dhacay? waa libaax kale, waa geesi kale xamza. cumar waayay dhaheen, ka fura buu yidhi albaabka. hadduu khayr la socdo cumarna khayr baanu ku qaabilaynaa, shar hadduu la socdona seeftiisaan ku dilaynaaye. kolkaasaa albaabkii laga furay cumar. kolkaabuu isoo galay, nebiga ayuu saa isugu duubay, rasuulka hortiisuu ku qiray shahaadadii iyo kelimadii xaqa ahayd. sidaa darteed ayaa uu yidhi laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah, ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey ma jiro. nebi moxamedna waa rasuulkii ilaahay, nebi moxamed waa suubanihii alle, nebi moxamed waa rasuulkii ilaahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam
ducadii uu u duceeya ilaahay u ajiibay. cumar waxaa la tilmaamaa inuu ahaa marka uu islaamahay cumrigiisa wax u dhow 30 sana, 30 jir buu markaa ahaa, ama dhowr iyo 20 jir calaa ikhtilaafi riwaayaat. dhowr iyo 20 sano 30kaa wax yar uga dhinnaa, ama 30kii buu markaa gaaray xilligaasuu cumar islaamay radia allahu tacaala canhu. waxaa kaloo la tilmaamaa islaamka waxaa uga hormaray oo uga horeeyey 39 qofood oo saxaabi ah. 39 saxaabi ayaa uga horeysay, asagana wuxuu ku dhammaystiray uu ku noqday 40. ninkii 40aad ee soo islaamo ayuu ahaa baa la yidhaahdaa. ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, ama ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi rasuulka waxaa rumeeyo islaamkii qaatay 39 nin. kadibna cumar baa soo islaamay, fasaaruu 40 bay noqdeen. markaasaa jibriil wuxuu la soo degay qowlkii ilaahay, yaa ayuha annabiyu xasbuka allah waman ittabacaka min almu'miniin. yaa ayuha annabiyu xasbuka allah, nebigaanu allah kugu filan iyo intii ku raacdee mu'miniinta ka mid ah. cumar ibn khadaab markuu islaamay oo meesha ay saana ugu jiraan ayuu nebigu qaabilay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yaa rasuul allah, alasna xaq miyaanan xaq ku socon? xaq miyaanan ahayn buu yidhi. diintaani diin xaq ah ma ahan miya? maxaa kelifa ila la dhunto? allahu akbar. khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaam idaa faqahuu. mar allaala markay fahmaan diinka, dadka waxaa ugu akhyaarsan ninka akhyaar ahaa markuu jaahiliga ahaa. kaasaa markuu islaamka soo galo islaamka fahmana ugu akhyaarsan buu xadiisku tilmaamayaa. rasuulkii allow maxaa dhacay? waxaan hadday xaq ahayn ma sheeg, hadday xaq yihiin maxaa loola dhuumanayaa? soo baxa. ibni mascuud wuxuu yidhi wallaahi cizi maanaan helin ilaa maalintuu cumar islaamay maahane. cumar maalintuu soo islaamay ayaan noqonay dad cizi leh. dhoodhoomashaan kacbada u dawaafi jirnay, dhoodhoomashaan u tukan jirnay ilaa markuu cumar soo islaamay maahane. maalintii cumar soo islaamay radia allahu canhu yaa laga soo baxay daartii arqam ibni abilarqam. 2 cutub baa laga dhigay muslimiinta. qolana xamza ibni cabdilmuطalib oo geesigii alle libaaxii allaha hogaaminaya, qoomka labaad faaruuq baa hogaaminaya. cumar radia allahu canhu ayadoo saas ay u jeedaan mushrikiintii yaan xaramka saa u tawaafnay buu dhahay cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu. maynan dhicin in si cayaana loo tawaafo ilaa maalintuu cumar soo islaamay maahane. ilaahay ha ka raali noqdo. cumar xaaladiisa saasay markaa ahayd. wamaa adraakum maa cumar, maxaa idin ogeysiye cumar wuxuu yahay? cumar radia allahu canhu maxaad malaynaysaan? cumar radia allahu canhu waa midka ilaahay xaqa uu yeelay calaa lisaani cumar. waa ninkuu rasuulku yidhi shaydaanku cumar hadduu wada maro, shaydaanku wuxuu marayaa fajan ama sak oo cumar wadadii uu maray aysan uu markaa ahayn. shaydaanku cumar uu ka carara radia allahu tacaala canhu. shaydaanku cumar wuu ka cabsanaya radia allahu tacaala canhu. shaydaanku maslak maqaa aad martay hadduu arko ma maro ilaa masagi iyo wadadii aad martay waddo aan ahayn inuu maro maahane. habeen baa nebi maxamed soo maray sala allahu calayhi wasalam abubakar sab dhexe asagoo tukanaya qiyaamuleylka. abubakar codkiisa hoosuu ahaa, qiraa'adiisu lama maqlaynin, si aayar ah oo hoosu u akhrinayay. wuu ka soo tegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. cumar ayuu soo maray oo cod dheer oo qaylaa qur-aanka ku akrinaya. nebi moxamed wuu iska tegay. subaxii markii la gaaraa labadoodii loo yeedhay. abubakar maxaa dhacay buu yidhi rasuulka, xalay baan ku soo maray adoo tukanaya, qur-aan aqrinaya. qur-aankaad akrinaysa codkaaga hoos buu ahaa, maxaa dhaco codka saas aad uga dhigtay? axadka aan qur-aanka u akrinayo, axadka aan rabo inaan salaada u tukadoon baryaayo ma dhaga la-a buu yidhi. haddaan hoosu dhiga waa imaqlayaa, waa ilaahay subxaana wa tacaala, inahu samiicun qariibun mujiibu dacwa subxaana wa tacaala. cumar adigana maxaa dhacay baa la yidhi, adoo qur-aanka akhrinayan ku soo maro codka cirka ku tolaye shaydaan baan burinaya buu yidhi. aniga
shaydaankan ceerinaya wax uu ka necbaa shaydaan ma jirin saas ha yeeline cumar oo adna waxoogaa hoos usoo deg baa la yidhi abubakar oo adna waxoogaa kor u qaad marka taa waxay tilmaamaysaa cumar heerkuu markaa taaganya rasuulka sala allahu alayh wasalam markii cumar uu soo islaamay xamsana uu soo islaamay yaa raggii xabasho aaday ee u hijrooday waxay maqleen islaamkii yaa xoogaystay dhibaato fara badan baa laga dhaafay cadaadkii muslimiinta lagu hayay waa laga rafacay waxaa soo islaamay laba geesi oo dadka dhib ku hayay waa xamse iyo cumar sidaa darteed dib bay u soo laabteen oo waxay ku soo laabteen baa la yidhi magaalada maka laakiin arrintaasay u maqleen maysan jirin markuu cumar iyo xamse islaameen baaba islaamkii dhuujiskii cadaadiska lagu sii adkeeyey laguna bilaabay intaa ka bacdi rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisii wuxuu amray horta intii soo laabatay ee ka soo laabatay xabasha qole ayaa haddana dib ugu laabatay etoobiya oo hijro laba ah ayaa jirto hijradii koowaad iyo tii labaad ee xabasho markaa ah laakiin umaysan sahlanayn sidii hore ay u baxeen oo kale dhib bay markaa ku noqotay intii bixi weysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar labaad ayuu amray dadku inay hijroodaan magaalada madiina inay markaa aadaan xaaladaasuu rasuulku amray sala allahu calayhi wasalam cumar wuxuu ku jiri doonaa saan arki doona dadka markaa hijrooda laakiin abibakar rasuulkaa dib dhigay oo yidhi joog in la idmaan laga yaabaaye wuxuu u dibdhigsaday inay asagu israacaan nebigu markuu amray dadkii asaga raacay inay hijroodaan madiina way hijroodeen muslimiinta badankooda yadrib bay aadeen waxayna u baxeen si dhuudhuumasho ah si qarsoodi ah ayagoo ka baqaya oo aad uga cabsanaya in axad qurayshta ka mid ah uu ku soo xadgudbo oo lasoo hujuumo oo dhibaato la gaarsiiyo oo mashaakil ba-an la gaarsiiyo ayagoo ka cabsanaya ilaa cumar maahane radia allahu tacaala canhu cumar ma ahee inta ka soo hartoo dhan sir bay ku baxeen dhuudhuumashay ku baxeen qarsoodi bay ku baxeen kubaa jidka looga daba tegay qaar baa la soo celiyey umu salama oo kale ninkeedii iyo canugii markii ay baxeen waddadaa loo galay waa tii ninkiina iska sii daayey gabadhiina dib loo soo celiyey wiilkiina qolo kale markaa qaadatay ilaa hal sano ay ku qaadatay inay bannaanka u soo baxdo umu salama oo ay ku oyso meeshii dhacdadii ay ku dhacday ilaa markii dambe nin dadkeedii kaa uu u taraxumay waa calool jilcodhaa maskiintan maad iska sii daysaan odageeda ha aadee kolkaasaa la sii daayey axad dhuumasho ku bixin ma jiro axad haddii la qabto dhib la gaarsiiyey ayaa badnaa ilaa cumar maahane radia allahu tacaala canhu laakiin cumar mar allaala markuu goostay inuu hijroodo markuu damcay inuu baxo hijrada aado wuxuu soo labistuu soo qaatay seeftiisii qaansadiisiina garabkuusaa usoo saartay wuxuu soo aaday kacbada xaggeeda waa dawaafay 7 mar ayuu kacbada ku dawaafay intaa ka bacdi wuxuu aaday maqaamu ibraahim wuu ku tukaday intaa kadib baa wuxuu dul yimid xalaqad iyo majlis iyo gole mushrikiinta ay ku urursan yihiin ay markaa fadhiyaan inuu baxo ayuu doonayaa walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walakina almunaafiqiina laa yafqahuuna walakina almunaafiqiina laa yaclamuuna intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa cizada iyo wanaagga ilahay siiyey cumar radia allahu canhu cumar sida ilaahay u qadariyey uu u maamusay iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa uu cizaynayo geesinimada weyn ay subxaana wa tacaala ninkan waa loo baahan soo galo ninkan shay muhiim ah waa lafta laga maarmaa sawirku markuu duceynayo uu ilaahu laba cumar mid kamida ku soo ayid islaamka oo iisoo rumay wax sahlan ma ahayn waa loo baahan yahay rasuulka xikmadooyinka uu sameynaya maxaa kamid ahaa waxaa kamid ah cumar soo maaha nin haliyaya maaha gabar buu ka guursaday radia allahu tacaala canhu cumar rasuulku wuxuu ka guursaday way noo imaan doontaa taariikhda cumare xafsa binti cumar rasuulkaa guursaday sababta maxay tahay xidid buu rabaa inuu la noqdo wuxuu rabaa inuu la xidido abubakar oo kaalin weyn kaga jira islaamka xidid la noqday xidmooyin fara badan baa ku jira ninka ugu sarreeyey abujahal kadib quraysh madaxdooda ahaa yuu ahaa waa abi sufyaan bin xarbi ninka lagu magacaabo umu xabiiba asagaa dhalay rasuulkaa guursay sal alla alayh wasalam marka xikmadooyin fara badan baa ku jira rasuulka sal alla alay slam waxyaabaha uu samaynayay ninka noocaana waa nin haliyey ah waa nin loo baxsan doono waa nin maamuus midan waa nin islaamka wax tari doono waa nin islaamka wax u qaban doono almu'min allah min almu'min daciif mu'minka qawiga ah
ee xoogga badan ee tabarta leh ee kartida leh ee cibaadada ku adag xoog mtaqaana badani ah leh intaba waa wuu ka khayr badan yahay alla agtiisana waa looga jecel yahay mu'minka daciifka ah laakiin mid kastoo ay kamid khayr buu leeyahay buu dhahay nabiga ixris calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya ku dadaal wastacin billah ilahay tala saaro walaa tacjaz wain asaabaka shay facaltu kada kana kada hadii kugu dhaco ولكن قل قدر الله إلهي بقى قدره وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان كلمة لو لده شيطانك عمل كيسي فرطا وحديك وقود عاويك وقود عين هديسا وقود عين إلهي وقود مثل قلين سبحانه وتعالى ربا إن الناكتيسو أرمل أما قراب نقطو أسايق عضو ilmihiisu ay yatiimoobaan ama ay agoomoobaan hooyadii ay gablantay wiil weyso ha isoo daba kaco hana igaga daba yimaado waadiga gadaashiisa cumarna waa dhaqaaqay radia allahu tacaala canhu cumar markuu baxay magaalada madiine ayuu tegey intaa kadibna dhowr waqti kadib rasuulkaa u soo hijrooday magaalada madiina asaga iyo abibakar radia allahu tacaala canhu laba dadkii loo walay oo muhaajiriin iyo ansaar ah laakiinse abibakar iyo cumar rasuulku wuu walaaleeyey sala allahu calayhi wasalam doorkii madiine ayuu cumar qaatay nebiga ayuu garab istaagay dagaaladii uu aadahayey oo dhan ayuu kaga qayb galay kana qayb qaatay manaaqib fara badan ayuu ilaahay cumar siiyey radia allahu tacaala canhu waxaa ka mid ahaa in xaqa ilaahay uu yeelay carabkii cumar radia allahu tacaala canhu sidaa darteed ayaa cumar wuxuu yidhi rabbigay ayaan 3 waxyaabood la waafaqay midda koowaad wuxuu yidhi waa aayadda xijaabka waayo waxaan idhi yaa rasuul allah dumarkaaga maad xijaabtid baari iyo faajirba waa u soo galaaye rasuulku ma samayn jirin waayo waxa ma soo degin aayad lagu amrayo in dumarka markaa la xijaabo in badan buu cumar xirsi iyo dadaal ku samaynaya in dumarka la xijaabo in dumarka xijaab ay xirtaan in dumarka xijaab fiican ay qaataan intaa kadib habeenada ka mid ah asagoo bannaanka iska socdaa sawda soo baxday oo ay u socoto qadaa'ul xaaje inay soo gudato sawda gabar dheer bay ahayd markaasuu cumar yidhi waan kuu jeednaa sawday inaad sawdo tahay nagamana qarsoonid wuu soo ceyriyey way soo oroday waxayna u soo gashay guriga nebiga ay tiri yaa rasuul allah cumar baan ka bixi la'nahay cumarow iska daa buu yidhi xaajaadkooda ha u baxaane rasuulka allow xijaab isla markii waxaa soo degtay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haddaad mataac weydiisanaysaan dumarka ka weydiista xijaabka gadaashiisa ta labaad wuxuu yidhi waa maqaamu ibraahim in lagu tukado rasuulku intuu cumar intuu rabiga u yimid buu yidhi yaa rasuula allah low ittakhadnaa maqaama ibraahiima musallaa ka waran haddaan maqaamu ibraahim gadaashiisa meel lagu tukada ka dhigano isla markii waxaa soo degtay wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa maqaamu ibraahim meel lagu tukada ka dhigta midda saddexaadna waa markii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dumarkii ay qabsadeen oo cadaadiskii waxyaabaha kale ay ku sameeyeen intaa kadib ayaa wuxuu yidhi cumar casaa rabbuhu in طallaqakunna an yubdilahu aswaajan khayran minkuna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaat ilaa aayadda ay ka dhammaato isla taa laftigeeda ayuu ilaah soo dejiyey subxaana wa tacaala waa waxyaabaha cumar uu ku waafaqay ama uu kaga qayb galay baa la tilmaamaa inay ka mid yihiin wuxuu ilaahay ku waafaqay subxaana wa tacaala arrimooyin kalena way jiraan oo saasoo kale uu markaa cumar kula waafaqay nebiga intaa kadib cumar mawaaqifyo fara badan ayuu tilmaamay uuna sameeyey xagga marka la fiiriyo shujaacnimada iyo geesinimada mar allaala markii sulx xudaybiya loo baxay oo sulx xudaybiya la aaday ayaa waxaa dhacday in mushrikiinta ay muslimiinta u diideen inay xaramka galaan inay galaan baa loo diiday cuthmaan ibni cafaan ayaa loo diray inuu reer maka la soo hadlo way diideene haddaad doonto adi tawaaf bay dhaheen cuthmaanna waa diidoo wuxuu yidhi ilaa nebi moxamed tawaafa aniguna tawaafi maayo xaaladdu markay meesha u maraysaa waxaa suuqa soo gashay in cuthmaan la dilay mubaayaco ayuu la galay
muslimiinta rasuulka laqad radia allahu cani almu'miniin id yubaayicuunaka taxta ashajarati ayaa markaa lagu soo dejiyey. markii heshiiskii la gelayay gaalada muslimiinta iyo gaalada waxaa ka mid ahaa heshiiskooda in qof kasta oo muslimiinta ka mid ah oo ka soo baxa islaamka oo gaalada u yimaada inaan la celinin. qofkii gaalada ka soo baxay islaamka yimaadana in la celiyo. arrintaa wuu ogolaaday nebiga. cumar aad buu uga dhiidhiidiyey. xaq maana ku taageen yaa rasuulka ilaahayo, maxaa dhacay oo diyaano iyo dullinimo aan diinteena ugu ogolaanayna? ragga aan iska celina yaa rasuul allah. nebigu wuxuu yidhi waxaan ahay rasuul ilaahay. abubakar buu u tegey. arrintii aad iyo aad buu cumar mtaqaana ay ula noqotay wax aad iyo aad u qaraar badan, dhibaato fara badan. isla markii abujandal baa yimid oo kusoo boodboodayo quyuud iyo xarga uu ku xirxirnaa. markaasaa la yidhi hala soo celiyo, dib ha loo soo celiyo. yaa muslimiina malee celina. cumar ibn khadaab wuxuu leeyahay agtiisaan socdaa, sayftaan saas ugu taagayaa, waxaan rabaa inuu intuu iga dafo aabihii ama qofka wada uu ku dilo kabacdin uu ka baxsado. laakiin ilama fahmin. cumar radia allahu canhu halyey noocaasa ayuu ahaa. geesi qiimo badan buu ahaa. ilaahay subxaana wa tacaalaana khayr iyo wanaag fara badan siiyey carruurtiisa. waxaa ka mid ahaa cabdullaahi bni cumar. waxaa ugu caansanayd xafsa binti cumar. labadooba waxay ahaayeen carruurtiisa kuwa ugu caansan ee ugu halyeysan ee ugu waxqabad badan. waa cabdullaahi bni cumare waa ninka ugu itibaaca iyo raaciddii ku dayashada nebiga badnaa sala allahu calayhi wasalam. yaa soo haray xafsa. xabse iska daa wax kale waxay noqotay sawjadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. sidaa darteed baa sababtay ku timid waxay ahayd markii dagaalkii bedar dhacay ayaa waxaa lagu dilay dagaalka khunays ibnu xudaafa assahmi, saxaabiga lagu magacaabo ee xabse ninkeeda ahaa. xabse 20 jir bay ahayd radia allahu tacaala canha. waxaa sidoo kale xilliyadaa geeriyootay cuthmaan ibnu cafaan gabadhii uu qabay ee rasuulku dhalay sala allahu calayhi wasalam. cumar ibn alkhadaab aad buu u kurbooday gabadhaa yariista ah ee asaga uu dhalay oo 20 jirka ah oo carmasho noqotay oo garoobada noqotay. aad iyo aad ayuu uga murugooday. wuu soo baxay cumar radia allahu tacaala canhu. waxa uu u yimid cuthmaan oo uu yidhi cuthmaanow waxaan la socdaa inay gabari kaa dhimatay, in sawjadaadii dhimatay. xabsaa garoobowdee ma kuugu daraa? xabsa aan kuu guuriyo? cuthmaan wuxuu yidhi waan ka soo fiirsanoo cumarow ii kaadi. cuthmaan dhowr maalmood buu maqnaa. waa ii soo laabtay buu yidhi cumar radia allahu tacaala canhu. markaasuu ii yidhi cumarow raalli ahow, aniga waxaa ii daahiro ii muuqday wakhtigaa inaanan guursanin. inaan guursado diyaar uma ihi macnaha. inaan guursanin ayaa ii daahirto xilligan inaan guursado diyaar uma ihi ayuu ii yidhi buu yidhi cuthmaan. aad iyo aad ayaanse uga xanaaqay ayuu yidhi cumar. nin dhan oo aan gabadhaydii u bandhigay oo aan u imid oo lugaheyga ugu imid oo idhahaya haddana diyaar uma ihi xilligan inaan guursado, xaqiiqdii waan ka carooday. wuu baxay cumar radia allahu tacaala canhu. wuxuu u tegay mtaqaana abubakrin asidiiq. markaasuu yidhi abubakarow cumar gabadha lagu magacaabo xafsa oo gabadhaydii ah ayaa armal noqotay ama way garoobowday ee ma rabtaa oo makuugu daraa? xaaladaasaan idhi abubakar. abubakar asagana maba ila hadlin buu yidhi. wax hadal ah oo ii soo jeediyey ama haa ah ama maya ah ma jirin, waana iga tegey. mar allaala markuu buxuu iga tegey oo iga aamusay, wuxuu iiga xanaaq badnaa ninka lagu magacaabo cuthmaan ibni cafaan. waayo cuthmaana roono i yidhi aniga diyaar ma ihi xilligan, laakiin ninka abubakar la dhaho waaba iga aamusayba. asaa iiga carrii xanaaq badnaa buu yidhi. intaa wixii ka dambeeyey ayaa nebi moxamed ii wacay sala allahu calayhi wasalam. ayuu yidhi cumar. wuxuu ii yidhi cumarow gabadha xabsa la yidhaahdo waxaad ku dartaa nin ka khayr badan cuthmaan radia allahu tacaala canhu. waa aniga ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ani ii guuri. cismaanna waxaad ku dartaa gabar ka khayr badan xabsa radia allahu tacaala canha. wa umu kaltuum
oo nebigu dhalay sala allahu calayhi wasalam. cuthmaan nebi maxamed baa ka fadli badan, xabsana gabadha nebiga dhalaa ka fadli badan. xaaladaas sacaado adduun buu ku helay iyo mid aakhiro. cumar markuu gabadha la wareegayo waxay cunto uma weynin radia allahu tacaala canhu. cumar markuu inanta ragga dhexdooda dhahaya makuugu daraa, ma aha wax xumaan ay samaysay inuu u qarinayo, laakiin wuxuu doonayaa sacaado adduun. gabadhiisuu liibaan la rabaa, khayr buu la rabaa, guri inay gashuu la rabaa, cizi karaame inay gaartuu rabaa, arrimooyin fara badan oo noocaasa ayuu doonayaa. sidaa darteed ayaa qofka muslimka ah mar walba xaalada lagama maarmaan ay u tahay. waad u jeedaa siduu sacaado u raadinayey, uu khayr u raadinayey, yaa wuxuu ku duldhacay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam in gabadha uu ka guursado, asagana nebi moxamed uu sado u noqdo. cumar radia allahu tacaala canhu waa khayr iyo wanaag, waa sharaf alla siiyey, waa wax alla la doonay, waa khayr iyo wanaag fara badan. cumar manqabadiisa iyo sharaftiisii taariikhdiisa ma aha wax halka lagu soo koobi karo. waxyaabaha waaweyn ee uu qabtayna maaha waxyaaba meeshaa lagu tilmaami karo ee markaa lagu soo kulmin karo, balse qofka muslimka ah mar walba taariikhaha khulafaa urashidiin ama saxaabadu inuu aad iyo aad u barto, uu fiiriyo qaab nololeedkoodu waa shay muhiim ahoo loo baahan yahay. khaasatan habka ay wax u samaynayeen, sida ay diinka u qaateen, habkay u difaacayeen, waa arrimooyin muhiim ahoo loo baahan yahay inay dadku xaalada noocaasa ogaadaan. cumar rasuulka agtiisa qiimo fara badan buu ka lahaa. maalin maalmaha ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalam, abuubakar, cumar iyo cuthmaan ayaa waxay dul fuuleen baa la yidhi jabasha uxud. ayagoo saas u dul saaran ayaa jabal uxud dhaqdhaqaaqay, wuu ruxruxday. rasuulka intuu lugtiisa jug ku siri, udbud ya uxud, uxudow sugnow, alaa tastaxyi, ma xishoonaysid miya? uxudow miyaadan xishoonaynin? nebi baa ku saaran iyo saaxiibkii iyo laba shahiid, waa cuthmaan iyo cumar radia allahu canhum. istaxyi samay buu yidhi uxudow, ma xishoonaysid miya uxudow? jabasha uxud buu nebigu la hadlay markay dhaqdhaqaaqday asaga, abuubakar, cumar iyo cuthmaan baa saaran. way ruxruxatay, lugtuu ku dhuftay, markaasuu yidhi sugnow oo istaag oo ha dhaqdhaqaaqin uxuday. ma xishoonaysid miyaa jabal uxudow? miyuusan nebi moxamed ku saarnayn sala allahu calayh wasalam? saaxiibkii kuma saarna miya? waa abuubakar iyo laba shahiid, waa cumar iyo ninka lagu magacaabo cuthmaan ibnu cafaan. labadooda gadaal baan ka arki doonaa sida ay u shahiidayaan. shahiid bayna noqdeen. cumar radia allahu tacaala canhu nin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa, sharaf iyo cizi iyo karaamo qiimo badan buu lahaa. geesi ilaah subxaana wa tacaala diintiisa halyey ah u halgamo ayuu ahaa. dulmiga ayuu necbaa, edabdarada ayuu diidi jiray. mar walba wuxuu ku dadaali jiray diinka islaamka sida uu yahay in loo qaato, loo fahmo, looguna dhaqmo. cumar radia allahu tacaala canhu nin jaldi ahoo adag oo kakan, karti iyo awood iyo hufnaan mudan ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu. cumar ninka lagu magacaabo, ilaahay ha ka raadi noqdee, waxaa dhacday oo kale maalin maalmaha ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ka sheekeeyey qiso iyo dhacdo. qisada uu ka sheekeeyey wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday buu yidhi in wiil ari jiro ah, ari la jooga, uu kusoo xadgudbay waraabe. markuu waraabihii kusoo xadgudbuu ari ka qaatay, arigii buu la cararay. wiilkii ari jiraha ahaa ayaa intuu ka daba cararay wuxuu ka celiyey, uu ka soo dhigay waraabahii arigii markaa uu qaatay. waraabi intuu saa usoo egay wiilkii buu yidhi, yaa iiga celin doona maalinta uusan raaci jirin, khawsaar eriga kaxaynay uusan jirin ilaa aniga maahane. dadkii way tacajubeen, dadkii way yaabeen. markay aad u yaabeen buu rasuulku yidhi, anigu waan rumeeyey, abuubakarna wuu rumeeyey, cumarna wuu rumeeyey. meeshuna maysan joogin, meeshana ma joogin. way rumayn lahaayeen hadday joogi lahaayeen. rasuulkaa u qiray cumar radia allahu canhu. rasuulku wuxuu yidhi haddana maalin ninbaa lo ama sac rartay. mar allaala markuu rartaa sacii hadloo yidhi, anigu saa layguma talagelin. dadkii baa yaabay. rasuulku wuxuu yidhi, anigu waan rumeeyey, abuubakarna wuu rumeeyey,
cumarna wuu rumeeyey walam yakun thama meeshan maysan joogin. xaaladdaa waxay xaqiijinaysaa ay tilmaamaysaa heerka ay iimaanku ka gaarsiisan yihiin. cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu ka mid yahay 10 mubashiriina fi ljanna, 10ka rag ee ilaahay nabiga jannada ugu bishaareeyey. 10kii jannada loogu bishaareeyey ayuu cumar ka mid ahaa. cumar 10kii rag ee ilaahay nabigiisa jannada ugu bishaareeyey ayuu ka mid ahaa radia allahu tacaala canhu. cumar manqabadiisii sharaftiisa meesha laguma soo koobi karo. aad iyo aad buu ilaahay u siiye karti iyo hufnaan aad iyo aad markaa u weyn. cumar radia allahu tacaala canhu mararka gobol ka mida marka la fiiriyo diinta xaggeedii ku dhaqankeedii ku camal falkeeda wuxuu ahaa nin aad iyo aad u jilicsan. qabi maxamed dhintay sala allahu calayhi wasalam. abubakar wuu maqnaa, cumar baa joogay. cumar mar allaala markii dhacdadii ay soo gaartay waa ishalan waayey, waa iscelin waayey. dadkii dahshi iyo wareer baa ku dhacay. seef ayuu la soo baxay. mar allaala markuu seeftii la soo baxay buu yidhi qof allaala qofkii yidhaahda nebi moxamed baa dhintay seeftaasaan qoorta oga goyna. wallaahu se nebi moxamed naga dhimanin, waana noo soo noqon doonaa, waana noo imaan doonaa. mar allaala markuu noo yimaado ayuu munaafiqiin luga iyo gacmo ka googoyn doonaa, sida nebi muuse uu u baxayuu qoomkiisii ugu soo laabtoo kaleu noogu soo noqon doona. abubakar baa yimid, nebiga meydkiisii buu shumiyey. intaa kadib buu yidhi ijlis yaa cumar, cumarow fadhiiso. cumarna waa diiday inuu fadhiisto. mar allaala markuu cumar diiday inuu fadhiisto ayuu abubakar geeskaa fadhiistay. wuu tashahuday, wuxuu akhriyey aayaddii ilaahay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi اrusul afa in maatow qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shay-a wasayajzi allahu ashaakiriin. qof kasta oo meesha jooga aayaddii buu akhriyey. cumar wuxuu yidhi markaasaan ogaaday inuu nebi moxamed dhintay. cumar waa iscelin waayey, lugihiisa dhulka waa celin waayeen, wuu dhacay. cumar mararka gobol ka mida marka la fiiriyo aad buu u jilicsanaa. mararka gobol ka mida xuduudda alla ayuu ilaalin jiray. mararka gobol ka mida aayaadka alla lagu akriyo nin dabacsan buu ahaa. dhinac kale marka laga fiiriyo shujaac geesi ah, ad adag oo xoog badan ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu. waxaanu ka fahmi karnaa mar allaala markii odaygii cuyayni ibnu xisni la yidhaahday baadiyaha ka yimid, xor ibnu qaysna adeerkiis ahaa. xor wuxuu u shaqaynahayey cumar oo baarlamaankii majliska cumar buu ku jiray. ninkaa awow adeerkii ahaa baadiye ka yimid oo yidhi xorow adaa amiirulmu'miniin agtiisa weji ku lehe waxaad iiga soo dalabtaa fasax inaan u galaan markaa rabaa. mar allaale markuu sidaa yidhi oo fasaxii loo soo qaaday cumarna wuu ka ogolaaday inuu usoo galo, waayo xor wuxuu ka mid ahaa qura'da xufaadee qur'aanka yaqaana. cumar ibn khataabna shaqo ma siin jirin ilaa qofkii inuu xaafidulqur'aan yahay maahane. majaalista goobaha la fadhiisto cumar baarlamaankiis waxaa ka shaqayn jiray nimanka xufaada, ama yaryar ha ahaadaano ama waaweyn ha ahaadaano. odaygii mar allaala markii loo soo fasaxay amiirulmu'miniinkii cumar inuu usoo galo, albaabkan uu saa uga soo galay, hadalkii ugu horreeyuu ku hadlay hanjabaad buu ahaa. hay buu yidhi, waa tahdiid, waa hanjabayaa. yabna alkhataab cadaalad naguma xukuntid oo caadil ma tihid, nin fiican ma tihid, garsoore ma tihid, wax fiicanna ma siisid. in badan buu aflagaadeeyey amiirka mu'miniinta hortiisa asagoo taagan, ilaa cumar xanaaqay, ilaa cumar kala badbatay, ilaa cumar uu damcay inuu odayga garaacu canaanto. waayo canaan buu u baahan yahay odaygee. xaaladda markay meeshaa maraysay, xorna uu arkoo meesha taagan yahay, cumar xaaladda ay ka taagan tahay meel halisa inay tahay, ayuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina allaha tacaala qaala linabiyihi khudi alcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. khudi alcafwa cafinta qaado, dadkana macruufkii wanaagga amar, jaahiliintana isaga jeeso. wa ina haadaa min aljaahiliin, midkan jaahiliintuu ka mid yahay. kan aad u jeeday adeerkay waa jaahil, midkaasaan kula hadlaya waa jaahil. nebi moxamedna waxaa lagu yidhi khudi alcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. jaahiliinta wallaahi cumar markuu xor aayaddaa ku akhriyey isla markii wuu istaagay. qadabkii waa ka degay, caradii way ka dhammaatay,
xanaaqii waa ka degay, waayo cumar wuxuu ahaa mid ku istaagid badan oo mar walba dul istaaga xuduudda allah subxaanahu wa tacaala. aayad allah haddii loo akriyo wuu istaagi jiray, aayad ilaahay haddii loo akriyo ma xadgudbi jirin. waqaaf ayuu ahaa mid taagnaasho badan cumar xuduudda ilaahay. habeenada ka mid ah nebi maxamed habeenkii la isreeyey ama micraajka lagu sameeyey ama riyada lagu tusay ayaa waxaa dhacday in rasuulka sal allau alayh wasalam uu yiri markii aan baxay oo aan tegay mataqaanaa habeenkii waxaa lay tusiyey jannadii iyo naartii. meelaha aan soo arkay waxaa ka mid ahaa jannada anoo saa usii socdaa waxaan ku arkay finaheedii banaankeeda gabar xural cayn ah oo aad iyo aad u qurux badan meeshana ku weysaysanaysa. liman baan idhi buu yidhi yaa iskale gabadhaan. waxaa laygu yidhi buu yidhi cumar ibn alkhadaab ayay u sugnaatay radia allahu tacaala canhu. rasuulku waxaan damcay buu yidhi inaan intaan sii dhaqaaqo qowlada jannada uu leeyahay cumar aan sii galo oo aan u soo eega hadday waxyaabo kale iyo gabdho kale meeshay markaa ugu jiraan. markaan cabbaar tallaabo qaadoon sii socday ayaa waxaan xasuustay kheyradii cumar. aad buu hanaaso badnaa, aad buu u masayr badnaa, aad buu mataqaanaa u hanaaso badnaa cumar radia allahu canhu. markaasaa waxaan ka baqay buu dhahay nebiga haddii aan galo oo aan meesha waxyaabo kale ugu jira aan damc inaan soo eego oon usoo fiiriyo inuu cumar iqabsado masiirkiisaan ka baqay oo dha maxaa kuu geeyey dumarkeyga. kadibna dib baan isaga soo laabtay buu yidhi. subaxii markii la gaaro rasuulka uga sheekeeyey cumar dhacdadii wixii markaa dhacay, wuxuu uga sheekeeyey wixii uu soo arkay, wuxuu uga sheekeeyey inuu damacsanaa inuu baxu usoo eega hadday meesha wax kale ugu jiraan, wuxuu uga sheekeeyey inuu soo xasuustay kiiradii. fabakaa cumar wuu ooyey radia allahu tacaala canhu. cumar waa ooyey. cumar wuxuu la ooyey rasuulkii ilaahayo maadaan kaa masayra alla intaad tagto oo aad baxdo oo aad soo fiiriso maxaad iigu soo eegi weysay waxyaabaha kale ee meesha markaa iigu jira. waxyaabaha kale meesha ku jira maxaa dhacay rasuulkii allo in loo soo eega ayuu aad iyo aad markaa u jeclaa cumar ninka lagu magacaabo radia allahu tacaala canhu. intaa kadib walaalayaal cumar asagoo sidaa ah oo saa u halgamaya, diinta islaamka aad ugu dadaalaya, khayrka iyo wanaagga ku socdee badinaya, xaaladiisu ay heerkaa gaarsiisan tahay ayaa markii dambe waxaa la gaaray rasuulkii uu jeclaa inuu adduunku faaruqo. waataa aan soo tilmaanay cumar ishanan waayey, waataan soo tilmaano cumar uu iscelin waayey, waataan soo tilmaano cumar uu aad iyo aad u kurbooday. wuu yidhi nebi moxamedaa dhintayaan la dhihin, war qofkii dhaha qoortaasaan ka goyna, war qofkii dhaha saasay xaaladiisu tahay. laakiin markii aayaddii la akhriyey abubakar uu akhriyey ayay arrintii xaqiiqo noqotay. arrintiibaa u xaqiiqowdo u dhowowday. qof kastoo meesha joogana aayaddii buu akhriyey, markaasuu meesha ka tegey, wuxuuna ogaaday inuu nebi moxamed dhintay. waxaad moodaa bay dhaheen saxaabadu inay maalintaa aayaddu soo degtay, waayo dahshi baa ku dhacay, wareer baa ku dhacay, waxaa ku dhacay waxyaabo fara badan. intaa kadib waa la kala dareeray, waana la kala baxay, waxaana la ogaaday arrintu inay xaqiiqo iyo arrin dhab ah markaa tahay. intaa kadib waxaa khilaafadii iyo maamulkii qabtay ninka lagu magacaabo abubakar radia allahu tacaala canhu ayaa ku wareegay khilaafadii markii uu ku wareegay abubakar waxaa dhacday dad fara badan inay dib uga ridoobeen islaamkii ayna ka laabteen. qole waxay cillad ka dhigteenay yidhaahdeen anagu sakada maba dhiibaynaba. sababtu waxay tahay rasuulkaa dadka u ducayn lahaa, nebigii dadka u ducayn lahaa, marka sakada la geeyna wuu dhintay, qof kaloo hadda aan siinaynaa ma laha. sakadii markaa manciyeen wayna diideen, waayo ilaahay wuxuu yidhi bay dhaheen khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum. ducadaada xasilooni iyo deganaan u ahee rasuulka allo u duceey oo yaa noo ducaynaya. dhinacaasay ka baxeen, qolo dhinkaasay aadeen, qolo waa wax yar baa islaamkii ku horo makii madiini taa'if markaa ah. abubakar wuxuu aad iyo aad u jeclaystay hawshii ugu weyneed ee uu qabtay noqotay in uu ku soo celiyo dadkaa ridoobay, riddada inuu ka soo celiyo, edeb darada ay la yimaadeen inuu ka soo celiyo, waxyaabaha ay la yimaadeen in dib loogu soo celiyo. xaaladda noocaas ah ayuu tilmaamay. xaaladaasaa waxay kaliftay ee keentay ninka lagu magacaabo cumar ibn alkhadaab in uu kala doodo abubakar radia allahu canhu. abubakar wuxuu yidhi ragga waan la dagaalamaynaa,
cumar wuxuu dhahay seed ula dagaalamaysa asoo nebigu yidhi ninkii laa ilaaha ila allah yidhaahdaa dhiiggiisii maalkiisa waa xaaraam ilaa xaqeeda maahane. abubakar wuxuu yidhi haddii ay iga manciyaan oo ay diidaan mataqaanaa waxar ay u keeni jireen xilliga nebiga diidideedaan kula dagaalamayaa. haddii ciqaal riwaayad kale xariga dabarka ah ee xoolaha lagu xiro oo ay gudan jireen hadday keeni waayaan waa la dagaalami lahaa. ilaa markii dambe cumarna uu gartay uu fahmay xaqa inuu la socdo ninka lagu magacaabo abubakar. rasuulka geeridiisii waxaa dhacday intuusan dhiman wax yar ka hor inuu jeesh diray. usaama ibnu zaydna madax looga dhigay. usaama ibnu zayd waa canug yaro 20 sano jir ama 20 ba aan gaarin. ciidankiisa waxaa ku jiray abubakar iyo cumar, askartiisay ka mid ahaayeen. wiilkaas usaama ibnu zayd la yidhaahdo yuu rasuulku diray sal allau alayhi wasalam. intaa kadib waa tii intaynan bixin nebigu xanuunsaday sal allau alayhi wasalam. markuu rasuulku xanuunsaday kadib usaama ciidankii u hakiyey, wuu dib dhigay ilaa amarka nebiga meel u dhacaayo. waan soo dhaqaaqay buu dhao nebiga meeshuu ku xanuunsanayaan usoo galay asagoo afreebto aan hadlaynin. mara intuu gacanta kor u qaado rasuulku dhabarka iga saara, mara intuu kor u qaado cirka fiiriyo madaxa iga saaraya. waxaan gartay inuu ii ducaynayey, inuu nebigu ii ducaynayaan fahmay buu yidhi. intaa ka bacdi ayuu nebigu dhintay. markii abubakar khilaafadii loo doortay hawsha abubakar uu qabtay waxaa ka mid ahayd in la fuliyo ciidankii usaama ilaa nebiga ka dardaarmay sal allau alayhi wasalam. markiise abubakar hogaamintii uu qabtay usaama wuxuu ka codsaday inuu cumar u reebo, cumar inuu bal u reebo bacdama asaga madax laga dhigay uu mustashaare iyo la taliye iyo hawsha uu markaa la qabto. usaamana wuu ka ogolaaday oo waa loo soo deeyey oo abubakar wuu u fasaxay inuu cumar markaa la joogo waa loo fasaxay. cumar radia allahu tacaala canhu howlo aad iyo aad u waaweyn ayuu markaa qabtay. khilaafadii abubakar intii lagu jiray wuu gacan siiyey, waa saaciday, waxbuu taray, arrimooyin fara badan ayuu qabtay. intaa wixii ka dambeeyey abubakar muusan daahin, wax fara badanna hogaaminta muusan haynin. sababtuna waxay tahay habeenada ka mid ah rasuulku intuu noolaa ayaa wuxuu yidhi waxaan ku riyooday ceelka oo inta wadaan la dul dhigay abubakar yimid. abubakar baa yimid, wadaantii buu hal mar ama 2 mar saa usoo daray. daritaankii uu kusoo daraayeyna ducfii tabardarri baa ku jirtay. cumar baa yimid, doontii baa gacantii cumar kusoo wareegtay, cabqari bay noqotay mid aad iyo aad u weyn. wax badan ayuu soo daray biyihii ilaa dadkii oo dhan wada cabeen, ilaa dadkii oo dhan ay wada horteen, xooloodii ay siisteen, ilaa dadkii oo dhan. waxaa lagu ta'wiilay xilliga gaabanee abibakar madaxtinimada haayay iyo xilliga weyn ee cumar uu madaxtinimada hayn doono saan arki doono. intaa ka bacdina waxa uu qaban doono ilaan cumar radia allahu tacaala canhu xilligiisa ayuu ahaa xilligii islaamku meel kasta uu gaaray, futuuxaad fara badan la helay, xaalad fara badan oo noocaasa. idan abubakar wakti yar oo 2 sano ah iyo bilooyin ayuu markaa hogaamintii iyo khilaafadii haayay. wuxuuna aad iyo aad ugu mashquulsanaa ninka lagu magacaabo abubakar dadkaa ridoway inuu soo celiyo, murtadiinta iyo dadkaa nebinimada sheegtay in dib loo soo celiyo, la edbiyo, la canaanto, waxooda ay yihiin la tusiyo. tiina waa ku guulaystay radia allahu tacaala canhu. abubakar baa dhintay. abubakar mar allaala markuu dhintay khilaafadii waxaa qabsaday ninka lagu magacaabo cumar radia allahu tacaala canhu. cumar ayay kusoo wareegtay, cumar ayaa hogaamintii gacanta ku dhigay. cumar si layaab leh ayuu wax u qabtay. cadaaladda maalintaa dhacda ee cumar hogaaminta uu qabtay waxay noqotay cadaalad laga sheekeeyo, taariikhduna markaa gasho. cumar mar allaala markuu saa u qabsaday hogaamintii, madaxtinimadii uu markaa ku wareegay. abubakar ninka lagu magacaabo markuu hogaaminta haayay waxaa abaanduula ciidanka u ahaan jiray khaalid ibni waliid radia allahu tacaala canhu. laakiin mar allaala markay cumar kusoo wareegtay cumar wuxuu aad u jeclaa ninka lagu magacaabo abu cubaydata caamir ibnu ljaraax. abu cubayda nin qiimo badan buu ahaa. abu cubayda amiinu haadihi lumma lagu magacaabi jiray.
sidaa darteed ninka lagu magacaabo cumar aad buu u ixtiraami jiray, wuu ka dambayn jiray, xataa mararka gobol kamida inuu agtiisa joogo ayuu jeclaan jiray. ninka lagu magacaabo cumar ibn khataab ninka lagu magacaabo xaaladaasuu markaa samayn jiray. arrintaa ayadoo markaa ay jirto, ninka lagu magacaabo cumar waxyaabaha uu qaban jiray markuu khilaafada iyo hogaaminta qabtay waxaa ka mid ahaa umarada, dadka meelaha oo magaalooyinku madaxda uga dhigo aad buu u booqan jiray. booqasho ayuu ku samayn jiray, wuu soo salaami jiray, waa u tegi jiray, xaaladoodu ka warhayn jiray, wuu soo booqanayay. nin kasta waxa uu yahay iyo sida xaaladiisu ay tahay ayuu markaa ogaan jiray. ninka lagu magacaabo cumar, nin kasta ninka kale inta uu kaga jecel badan yahay, uu kaga dhow yahay ilaahay, uu kaga taqwo badan yahay, uu kaga cabsi badan yahay allah subxaanahu watacaala xaggiisa ayuu hogaaminta iyo maamulka u dhiibi jiray. ninka lagu magacaabo cumar radia allahu canhu, mar allaala markuu arkay ninka lagu magacaabo ee saxaabiga ah ee lagu magacaabo saciid ibnu caamir aljumaxi, mar allaala markuu taqwadiisii iyo wixiisii arkay ayuu madax uga dhigay, madax buu ka dhigay. weliba ximsa meesha la dhaho ayuu u dhiibay, meeshaasad madax ka tahay. cumarow ilaahay ka baq, waa saciid ibni caamir, war cumarow ha ifidnaynin, war cumarow hogaaminta iga daa. wuu xanaaqi jiray cumar, war intaad ii dhiibtaan aniga hogaaminta, qoortaad iga saartaan iga baxaysaan miya, wallah aanan ku dhaafeen baa la dhihi jiray. cumar radia allahu tacaala canhu, mar allaala markuu wiilkaa diraayay ee lagu magacaabo ninkaa lagu magacaabo saciid ibni caamir, wuxuu yidhi aan arsaaq ku siino waxoogaa, bacdamaa meel gobol ah lagu diraayo, madax lagaaga dhigayo risqi. maya buu dhahay, wuu diiday inuu wax ka qaato, wuu iska baxay baa la yidhi. mar allaala markii meesha uu tagaa maalin maalmaha ka mid ah, cumar waxaa u yimid magaalada madiine asagoo jooga daduu aad ugu kalsoon yahay oo reer ximso ah. markaasaa wuxuu yidhi waxaad iisoo qortaan dadkiina faqiirada ah ee ximso degan magacyadooda, waxaan rabaa inaan wax taro oo wax siiye. warqad bay u keeneen, warqadda maxaa ku qoran fulaan 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 fulaan, hebel hebel hebel, saciid ibni caamir. waayaab, saciid ibni caamira warqadii ku qoran. cumar wuu akriyey, markaasuu yidhi waa man saciidi ibni caamir, waa kuma saciid ibni caamirkaad meesha kusoo qorteen? markaasuu yidhi amiiruna, waa amiirkeeni, waa ninka amiirkeenii ahaa. markaasuu cumar yidhi amiirkiina ma faqiir baa? haabay dheheen, wallaahi habeeno dhaar oo badan baa soo mara, gurigiisaan dab lagu karinin. cumar wuu ooyey, dab aan lagu shidin, ilaa biilinta ka timid indhihiisa ay garkiisii qoyeen. 1,000 diinaar baa intuu soo qaaday, surar iyo kiish intuu kusoo dhexday ama baqshad, yidhi salaan iga gaarsiiya, cumaraana kuusoo diray dhaha, lacagtaan u geeya. cumaraa kuusoo diray dhaha. cumar nin cajiib badan buu ahaa, nin aad iyo aad aan la heli karin buu ahaa. wuxuu yidhi u geeya 1,000 diinaar, una sheega ha ku kaalmaysto qadad xaajaadkiisa. waa loo keenay saciid ibni caamir. mar allaala markuu saa u furay oo lacagtuu arkay, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi. waxaad moodaa musiibo inay markaa kusoo degtay. maxaa kugu dhacay? amiir mu'miniinkii miyaa dhintay? say xaaladu tahay? ma ciidankii muslimiinta la jabiyey? say xaaladaadu tahay? naagtiisii baa sidaa dhahaysa. intaa wixii ka dambeeyey cumar ibn khataab ayaa wafdi ahaan u yimid bashaam, suu u baarbaara arrimooyinka, say wax u jiraan, say wax u socdaan. mar allaala markuu u yimid baa waxay dheen, ayuu yidhi ka warrama amiirkiina, aad buu u tafaquhdi jiray, wuu baarbaari jiray. ninkaasaa madax ka dhigtee meesha loo dhiibay, keliya kuma joogsan jirin cumar radia allahu canhu, waa dabageli jiray, waa ogaan jiray raciyada, dadka madaxda loo yahay, kuwa madaxda ah, xaaladaasoo dhan wuu kala ogaana. war iiga warraba buu dhaa, ninkaan idiin soo diray. war nin fiican maahan bay dhaheen. ninkii saas ahaa yaa haddana laga dacwooday, bani aadamki inuu dhib badan yahay. 4 waxyaabood ama 4 arrimooyinkiisii ka mid ah oo midbata kale ay ka dhib badan tahay bay ku sheegeen. cumar radia allahu canhu iyo yeera buu dhahay, ayagana waa u wacay. 4tiiba wuu ka jawaabay. mar waxay dhaheen maalintii nooma soo baxo, hal maalin nooma soo baxo. mar waxay dhaheen habeenkii dadka ma qaabilo. mar waxay dhaheen subxi xadiiska ma furo mataqaana xafiiska dhaqso. mar waxay dhaheen suu u fadhiya wuu suuxayaa. mararka gobol ka mid ah intii wuu ka jawaabay. war anigu ciyo uma soo baxee malihi buu yidhi shaqaale, cajiinkan ilmaha u qasaa, waa qamiirtaa, waa sugaa, cajeeradan u dubaa, intaa kadib baan usoo baxaa markii maalinta kor noqoto.
habeenkii qof aan la hadla male. waa run, maalintii oo dhan bay ayagu haystaan oon u shaqeeya, habeenkii allaan siiyaa subxaana wa tacaala. waxay dhaheen mataqaanaa hal maalin ayuu bishii maqnaadaa, halka maalin hal qamiisaan qabaa buu yiri, halka qamiis baan dhaqdaa bishiiba hal mar. xataa markuu qalalo yaan usoo baxaa galabtii. marka aan miir daboolmayana saxaabi asxaabta nebiga kamid ahaa maalin la dilay buu yiri oo aanan u gargaarin. taa markaan soo xasuustaa waxaan ka baqa inay musiibo igu dhacdo. almuhim cumar radia allahu canhu nin saasoo kale ayuu ahaa. intii madaxtinimada cumar uu haystay ummaddu aad aad bay u liibaaneen, khayr fara badan baa la gaaray, ilaa subxaana wa tacala agtiisa sharaf iyo qiimaa laga gaaray. cumar hogaaminta maamulkuu hayaa, asagaa amiir mu'miniin ah. maanta wuxuu samaynayaa waxyaabaha ugu qiimaha badan ee racyo loo sameeyo. maalin buu ooyey cumar radia allahu canhu, asagoo ooynaya maxaa kugu dhaco la oysay, maxay xaalada u tahay? dhagxaanta madiina daadsan buu yiri, awrta iyo ratiyaalka maraya ee kukufayaan ka ooynaya, waayo anaa lay qabsanaa maalinta qiyaamo, ilan anaa maamulka islaamka maanta haaya. xaaladaasuu cumar ahaa intuu hogaaminta haayay. waxyaabihii uu sameeyey wax aad iyo aad u weyn bay ahaayeen ilaa laga gaaro heerkii dhimasho. cumar xilligiisa ayaa futuuxaadkii faraha badnaa ay dhaceen. waxaa dhacay futuuxaad aad iyo aad u fara badan. waxaa dhacay futuuxaad ama furashooyin aad iyo aad u fara badan. markay muslimiinta saa ugala mubaayacoodeen, shaam ayuu furtay, masar ayuu furtay, wuxuu furtay meelo fara badan. dagaalo aad iyo aad u waaweynna markaa way dhaceen xilligiisa. ninka lagu magacaabo abu cubayda mar allaala markuu ka dhigay abaanduule, futuuxaad fara badan ayaa la helay. ilaa abu cubayda uu aad iyo aad u jeclaa ninka lagu magacaabo cumar. abaa cubayda meeshii uu deganaa ee shaam ahayd ayaa daacuun ka dhacay. markii daacuunkii ka dhacay ayaa warqad uu u soo qoray cumar ibn alkhadaab abu cubayda ee uu leeyahay, warqadaydan hadday kuu timaado, galab hadday kuu timaadana ha waa berisanin ilaa gaadiidka dhabarkiisa maahane. subax hadday kuu timaadana ha galabaysanin ilaa gaadiidka dhabarkiisa maahane. dhaqsa ku soo bax buu ula jeedaa, si dhaqsaa ku soo bax abu cubaydow. warqadaydan hadday kuu timaado ha tayarsanin, warqadaydan hadday kuu timaado subaxna galab ha gaarin, hadday galab kuu timaadana subax ha gaarin. abu cubayda wuu gartay, wuu fahmay ujeeddada cumar uu wato radia allahu canhu. waxaa dhacday inuu warqad u soo qoray ee uu yidhi, cumarow aad iyo aad baad u mahadsan tahay, waana gartay ujeeddadaada. wax aan ka haraynin oo aan ka baaqi noqonayn oonan ka haraynin yaad rabtaa inaad iga reebto. daacuunkii dadka waa shafayaa, meydkii waa fara badan yahay, dad fara badan baa dhimanaya, wasalaamun calaykum ugu soo qoray. cumar mar allaala markii uu akhriyay warqadii abu cubayda wuu gartay inuu ninkaa dhimanayo. kadibna waa ooyey. maxaad la ooysay? ma abu cubayda dhintaan lagu yidhi? maya buu yidhi, laakiin washak buu u taagan yahay oo qarkuu u saaran yahay geeri. abu cubayda daacuunkiibaa asiibay, meeshaasuuna markaa ku geeriyooday radia allahu tacaala canhu. cumar ninka lagu magacaabo aad iyo aad ayuu wax taray. wuxuu noqday namuudij la fiirsado, xukunka looga daydo, mas-uuliyadda sidii loogu talagalay ayuu uga soo baxay radia allahu canhu. mithaal ayuu noqday naadir ah xagga suhdiga iyo warcigii tawaaduca dadka. in badan ayuu dareemi jiray cumar mas-uuliyadda culayskeeda iyo qutuurada ay markaa leedahay, ilaa uu ahaa cumar radia allahu canhu mid habeenkii soo baxa asagoo tafaqudhaya oo baarbaaraya muslimiinta axwaalahooda. xaajaadka raciyada ay u baahan yihin buu ogaanayuu fiirinayay. ammaanadaa alla ee loo dhiibay ee dadka ammaanada looga dhigay ayuu rabay inuu si fiican uga qayb qaato. qisooyin fara badan baa dhacay xilligiisa markuu habeenkii wareegayay. qisadan baa ugu horaysa, waa qiso cajiib badan. waxay ahayd baa la yidhi wakti uu ahaa xilli ay hurdayaan magaalada madiina dadkeeda, yaa qiimad iyo teendho u soo baxday asoo saa u wareegaya cumar. wuxuu ka maqlay aniin qof dhahaya
oo weliba dumar ah, qof taahaya, qof iinlaynaya, qof xanuunsan oo kale. markuu u soo dhowaaday teendhadii ayaa wuxuu arkay nin qaacid ah oo fadhiya teendhada agteeda. wuu salaamay, qabarkiisuuna weydiiyey, war maxaad ahayd? wuxuu ogaaday cumar ninkan inuu baadiye ka yimid, naagtiisana ay la socoto, foolna ay qabatay. ininta iyo teeha baxaaya iyo iidaas naagtiisoo foolanaysa inay markaa ahayd. qof u jooga oo agtooda saacidaynuusan markaa jirin. allahu akbar. madaxweyne, hogaamiye lagu dayduu ahaa radia allahu tacaala canhu. cumar wuu soo laabtay isla markii, wuxuu soo aaday gurigiisii. mar allaala markuu gurigiisii yimid ayaa naagtii wuxuu ku yidhi, xaaskiisii cumar waaye, umu kaltuum binti cali. umu kaltuum binti cali baa la dhihi jiray, cali bni abi aalib gabadhiisii uu guursaday ee imtiqaanaa ayay ahayde. intuu u yimid ayaa wuxuu ku yidhi, ma rabtaa ajir oo ma kuu kaxeeyaa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ajir inaad ka qaadato? gabadhii waxay tiri, wamaahu, maxaa dhacay cumarow? wuxuu yidhi, naag musaafirad ah yaa fool qabatay, qof la joogana markaa ma laha. haabay tiri, nacam in shi'it, haddaad doonto waan saacidi. waysi soo raaceen, waxay soo qaadatay wax allaala wixii loo baahnaa oo subag ah, oo boorash ah, oo tacaam umuli ay cunto ah. gabadhii ayay u soo gashay. cumar wuu baxay radia allahu canhu, qoryuu soo aruuriyey. mar allaala markuu qoryihii soo aruuriyey uu meel isku keenay yuu dab ku shiday. dabkii markuu ku shiday wuxuu guda galay cumar inuu afuufayo. mishaaradiiba dab kala sii saaray, naagtina maynan dhalin. wuu afuufayaa marka, garkiisii iyo wejigiisiibaa dambastii iyo qaacii iyo wixii o dhan markaa ku aruuraya. ninkii waa yaaban yahay, ma yaqaana ninkan hawsha u qabtay, ninkan hawsha u haya ee soo aruuriyey qoryaha oo mishaaryada dabka saaray ee waxyaabaha afuufaya iyo gabadhan xaaskiisii u gashay, ma yaqaana arrintooda. mar allaala markii hooyadii ilaahay kala keenay, 4 indho isjecel bay soomaalidu dhahaane, uu ilaahay istusiiyey, ayay umu kaltuum soo qaylisay marka. waa markuu canugii soo dhahay, yay tiri, yaa amiira almu'miniin bashir saaxibaka bigulaam. amiiru lmu'miniinow, saaxiibkaaga oo foosha loo ahaa u bishaaray, wiil baa loo dhalay. rajulkii markuu maqlay amiiru lmu'miniin wuxuu guda galay inuu inaa lilaahi yeysto. haybad iyo dahshiyaa qabatay, asagoo dhan wuu jareeyey. waxa dabkuu afuufaya waa amiiru lmu'miniin, waxa mataqaanaa gabadhii kalkaalinaya waa xaaskiisa, waxa garkiisa qaaca iyo holaca iyo dambastay ka buuxsamaysa waa mu'miniinta amiirkooda. cumar baa dejiyey oo yidhi, war aamus, saas ma ahee, rawcigii baa laga dejiyey. tacaamkii baa la qaaday oo zawjadiisii baa loo geeyey say u quudatay u cunto. intaa kadib wuu soo istaagay oo wuxuu meesha u dhigay tacaamkii iyo raashinkii ninkii hortiisa, asagoo dhahaya, way xaka horcon, waad dhafartay caawe. ilee naag fool ah, ninkeedana waa fool. intaa wixii ka dambaysa cumar xaaladaasu markaa sameeyey. waxyaabo fara badan oo wax uu ku qabsadana wuu siiyey. marka saasuu cumar ahaa radia allahu tacaala canhu. waxyaabaha cajaa'ibta badan ee cumar uu sameeyey radia allahu canhu wax la soo koobi karaay markaa ma aha. maalin maalmaha ka mid ama habeenada ka mid ah saasuu u dawaafahaya. haddana asagoo saa u wareegahaya ayaa wuxuu maqlay ilmo yar oohintooda. cunug baa wuxuu lahaa, hooyo, wuxuu ma bislaanayaan miya? waxaan dabka saaran miyaysan bislaanaynin? kii labaad wuxuu lahaa, hooyo, juuc, baahyaa i hayso. ka saddexaadna wuu sii hurdi rabo, waa gam'i rabay. hooyada digsi baa dabka u saaranoo way babbinaysaa. cumar baa u galay markuu ciyaalkii oohintoodii maqlay. mar allaala markuu u galay uu u tegay baa wuxuu yidhi, maxaa haysaa? waa maxay arrintaada? waxay tiri, ciyaalkan baa iga baahan. digsiga maxaa ku jira? biyaa ku jiro, waan ku maaweelinayaa, inay hurdaan baan rabaa ay seexdaan.
yaad ka sheeganaysaa buuri yaa amatallaah, addoontii alley yaad ka sheeganaysaa dhibkan ku haaya? markaasay tiri nacamtii cumar baan ka sheeganayaa, asagaa hoggaamintii islaamka maanta haaya, asagaa ilaahay wax noogu dhiibay, asagaa mas-uul naga ah, haafil buu naga noqday, waana na iloobay cumar. saa tiri gabadhii taqaanaa meesha markaad joogtay. cumar indhihiisii biyo waa is-celin waayeen walaalayaal, indhihiisii biyaa ka soo daatay cumar radiallaahu canhu. waxaa la socda waardiyihiisii, intay isi soo raaceen buu baytulmaalka ku soo laabtay, daqiiq iyo subag iyo wixii loo baahnaa ee boorash iyo caano ah ayuu u soo qaaday. uu yidhi jawaan iigu xira. jawaankii markii loogu xiro meesha loo dhigay, cumar wuxuu guda galay, uu damcay inuu soo qaato oo dhabarka saarto. ninkii baa dhahay laa, ani ii saari, anaa qaadayee keen. maya buu dhahay qaadi maysid, bal ana xmilni, ani ii saari buu yidhi, adimaa ii xambaarayo ii qaadaya dembigayga maalinta qiyaamaha. allahu akbar, adimaa dembigayga ii qaadaya maalinta qiyaamaha. cumar dhabarkiisuu ku soo qaaday, inantiibuu u keenay. markaasaa loo kari in la bilaabay in boorashkii mishaaryadii loo kariyo wiilashii yaryaraa. mar allaala markii ay kari rabtay, bislaashihii ay dhowdahay inta caano loogu daree la siiya keliya ay dhiman tahay, yaa ninkii wuxuu yidhi cumarow naga keen aan tagnee. wallaahi inaanan ka tegayn buu yidhi cumar, ayagoo ooynayaan u imid ilaa aan arka ayagoo qoslaaya. radia allahu tacaala canhu, imaamun caadil. wallaahi inaanan baxaynin, oohintoodaa isoo gelisay, oohintoodan guriga ku soo galay, oohintooda markaan maqlaan u soo galay ilaa aan arko ayaga oo qoslaaya, ka tegi maayo buu dhahay radia allahu tacaala canhu. markay ciyaalkii cabeen, ay cuneen oo ay dhargeen oo ay ciyaar bilaabeen, ayay tiri war yaa tahay kaaga wanaagsanow aan cumar kugu bedelanay, kaaga wanaagsanow yaa tahay, berito intaan bannaanka baxnaan leenahay cumar ma doonaynee ninkan hana loogugu bedelo, meel hebel iigu imow buu yidhi. markay jalbaabkeedii soo qaadatay subaxii ay meeshii tagtay, cumar baa meesha fadhiya asaguu ahaa radia allahu tacaala canhu. walaalayaal, cadaaladda cumar waxay gaartay meel aad yaad u sarraysa. cumar caadil buu ahaa, wuxuu ahaa nin ku cadaalad falay, cadaaladna ku sameeyey raciyadii ilaahay u dhiibay subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaddii uu saaraa sidii loogu talagalay uga soo baxay. waan soo tilmaanay cumar waa ooyey. maxaa kaa ooyinaya baa la yidhi, baqasha ku turunturoota furaad buu yidhi, anaa lay qabsanayaa amaama allah, waayo aniga ayaa ah hogaamiyaha islaamka maanta. haddii waddada aanan ka fogaynin dhagxaantii waxyaabaha meesha markaa ku yaala, bani aadamkii in la inqiyaadiyey, muslimiintii in la dharjiyey, in wax kastoo dhibaataa lagala difaacay, yaa xoolihii xayawaankii loo dagaalamayaa. waa islaamka haybadiisa iyo wanaagiisa iyo sida xaaladdu markaa ay tahay. cumar radia allahu canhu aad baa looga baqi jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin madaxda kaafiriinta ka mid ah wuxuu damcay bal inuu soo arka cumar, ninkaasa looga baqayo oo islaamka madaxda u ah, oo adduunkao dhan dadkao dhan ay ka wada cabsanayaan. dahab baa u xiran, xariir baa u xiran, ushiisu waa dahab, kabihiisu waa dahab, asagoo dhan waardiyaal baa dhinacyada ka taagan. magaalada madiinuu soo galay. aaway cumar radia allahu canhu, gurigiisii baa laga fiiriyey, waa laga waayey. masaajidkaa laga fiiriyo waa laga waayey. meelahaasaa lagu soo wareego waa laga waayey cumar radia allahu canhu. dad baa loo diray, markaasaa la yidhi geedkaas hoostiisuu jiifaa amiirka mu'miniinta. wuu soo dhaqaaqay, wuu soo dul istaagay. cumar waa jiifaa, qamiis buu wataa, dhulka ayuu jiifaa, korkiisii ciid baa gaartay. boqorkii aad buu ula yaabay. markaasuu yidhi xakamta, waad xukuntay, facadalt, waad ku cadaalad fashay xukunkaagii, wa aminta, waad aamin noqotay, wanimta, waadna hurday. waxa hurdadan kaa keenay oo geed hoostiisa aad la hurdaysa amiirka mu'miniinta, waa xukunkii inta laguu dhiibay aad ku cadaalad fashay, intaa ka bacdi aad aamin noqotay. qof waardiyeynayay ma jira radia allahu canhu, qof waardiyeynayay ma jira radia allahu canhu. markaasaad cadaalad fashay,
waad aamin noqotay kadib baad seexatood huruday buu yidhi. saasaa loo ilaalinayaa. way jaraynayaan madaxda maanta joogta. halkaasaa la taagan yahay amiiru lmu'miniin cumar. wama adraakum ma cumar walaalayaal. maalin maalmaha ka mid ah gurigiisuu joogay. gurigiisa isagoo jooga qamiiskiisana ku dhaqanaya baaf. gabadhii uu qabayna meeshaas ayay la seexaysaa, way qaylinaa. marna way kusoo tuuraysaa kashii toonta, mar waxay kusoo tuuraysaa mooyihii yaraa, oo iska qabtaa xaggu isaga tuuraa. saasuu dharkiisii u dhaqanayaa radia allahu tacaala canhu. nin baa xalay naagtiisii kasoo xanaajisay, ciil qaboo faruuraha qaniinaya, u dhaarsan maanta inuu amiirka mu'miniinta u yimaado kaga ashtakooda naagtiisa dhibka ay ku hayso. cumar ayuu usoo aaday. meel dheer buu ka arkay asagoo qamiiskiisii dhaqanaya, gabadhuna ay qaylinayso, saanaa tahay iyo kanaa tahay iyo intaa tahay. intaa uu iska qoslaya radia allahu tacaala canhu. markuu saa indhaha u saaray ninkii waa iska gadoomay. dacwo maba fulaninba, wax maba sheeganinba. isla markii wuu gadoomay, wuuna raabtay. kaa igu wac buu dhahay cumar radia allahu canhu. war maxaad u baahnayd? maya buu dhahay, khalaas waa qancay. sheega walaalo. maya waan qancay, maya waan qancadaasuu ku jiraa. markaasuu yidhi iska sheeg waxaa u baahnayd. amiirkii mu'miniinta saasaa dhacday buu yidhi. islaantii baa xalay qayle la seexan waaye, waan ka hurdi waaye, qajajac iyo qayle igu haysay. adaan rabay inaan kuusoo dacwoodo, xaalkaagaan arkay, keegaaba iqarso ah buu yidhi. yaa akhii buu yidhi, walaalow waa dumar, waa daciif, waxay haayaan dhowr dab. inaan mid kale ugu sii darno maahe, waa inaan u dulqaadano. shahwadeenii ayagaa haaya kuleylkeeda, dabka kuleylkiisa ayagaa ku jira, carruurta kuleylkooda ayagaa haaya. xayd baa ku dhacayo, waa xilliga ay madaxa dhulka ku riixayaan. isaga sabar oo u dulqaado akhii, sabar oo u dulqaado. cumar radia allahu tacaala canhu. cumar waa nin aad iyo aada muujitu ah walaalayaal. waa tusaale fariid ah. ma dhicin sida uu wax u maamulay iyo sida uu cadaalad u sameeyey iyo sida ilaahay uu waafajiyey subxaana wa tacaala iyo sida ilaah subxaana wa tacaala ummadda ay ugu dirsadeen xukunkii cadaaladda markuu markaa ku jiray. maalin habeenada ka mid ah ama maalin maalmaha ka mid ah, asagoo socda oo magaalada socda, ninkii taawus ahaana uu la socday ama waardiyihiisii, yaa islaam dhul ku tukubaysee cajuuso ah yay tiri cumar qif istaag. waa madaxweyne, waa hogaamiyii islaamka, waxaan dhihi karnaa waa adduunka hogaamiyihiisii. saa darteed istaag bay tiri, cajuusa waaye, ma awoodi karta inay socoto, dhul bay ku tukubaysaa. way istaajisay. yaa cumar ittaqi illaah, cumarow ilaahay ka baq bay tiri. joog cumar, ilaahay ka cabso. shalay cumayr baa lagu dhihi jiray, cumar yarow. cumayr waa cumar yarow. suuqa cokaad baad ciyaalka ushaada kula cerceersan jirtay. wax yar baad kobacday oo cumar baad noqotay intaad weynaatay. maantana mu'miniinta ayaad amiir u tahay. cumar ilaahay ka cabso, cumar raciyada ilaali, cumarow xaqa ku soco, cumarow cadaalad noqo. madaxuu hoos aadinayaa, saasuu hoos u aadinayaa, hoosuu fiirinayaa. hadalkiibay ku badisay, hadalkiibay ku dheeraysay. cumar saakit waa aamusan yahay. waxaad moodaa madaxiisa inay shimbir saaran tahay radia allahu tacaala canhu walaalayaal. cajuusa waaye, islaam waayeel ah waaye, ul bay ku tukubaysaa. cumar bay wadada bartamihiisa istaajisay, way istaagsan tahay. naa ka jooji buu yidhi hadalka amiirka mu'miniinta. daa buu yidhi, ha hadashee daa. markay ka dharagtay waxay u baahneed ay kala hadashay, uu saakid yahay, uu aamusan yahay, madaxiisa uu hoosaas u fiirinaayo, iyo markii dambe ka tagtay. cumarna waa soo dhaqaaqay. hoy buu yidhi, ma taqaanaa gabadha ila hadlaysay? islaantan ma taqaanaa? horta waa khawlata binti thaclaba. khawla binti thaclaba allatii samica allahu qawlahaa min fawqi 7 samaawaat. waa gabadhii ilaahay hadalkeeda uu ka maqlay 7 samo korkooda. qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurukuma ina allaha samiicun basiir. ilaahii 7 samo korkooda kasoo maqlay qowlkeedii waayo. gabadhaan gabadh sahlan ma aha. warduqdan ha yasib. wallaahi haddii
ay hadalka igu sii wadi lahayd meeshaasaan taagnaan lahaa buu yidhi ilaa ay xaajadeeda iga dhammaysato, ilaa in salaad inta laygu aqimo aan baxon soo tukadoon usoo laabto haddana maahane. haddaysan iga inqilaaci lahaynay iga siibmi lahaynay iga tegi lahayn anna meeshaasaan taagnaan lahaa. warseen uu maqli waayey hadalkeedan u dhegaysan waayey, ilahay baa hadalkeeda dhegaystay subxaana wa tacaala. 7 sano korkooda ayuu ilaahay hadalkeeda ka maqlay subxaana wa tacaala. iyada iyo ninkeeda ayaa wax dhex maray, ninkeedii baa dihaaray, hooyaday oo kalaad igala mid tahay buu yidhi. alla maxaa dhacay? rasuulkay usoo carartay sala allahu calayhi wasalam. rasuulkii ilaahayow saasay dhacday oo odaygii saasuu ileeyahay, anigii waa dabcay, ciyaalkiisii baa xambaaray, wax kastaan qabtay, maanta saasuu ileeyahay, arki maayo ilaa sida uu ku yidhi inaad ka tahay maahane, oad xaaraan ka tahay, hooyadiis oo kale aad kala mid tahay. yaa rasuula allah, ilaahay iigu sheeg, war ilaahay iigu sheeg. caaisha waxay tiri ilaahii samcigiisii waasica ahaa yaa nasahnaaday. guriga ayaan qayb ka joogay markay khawla nebiga la hadlaysay, hadaladooda gobol ka mida waan maqlaayey, gobolna waa iga cilayo ma maqlaynin. ilaahayna wuxuu ka soo maqlay min fawqi 7 samaawaat subxaanahu wa tacaala. isla markii durba alla usoo jawaabay, qad samica allahu, ilaahay inuu maqlaa xaqiiqo ah, qawla allatii, islaantii qowlkeeda, tujaadiluka fii zawjiha, ninkeeda kaa la doodaysay, وتشتكي إلى الله إلهي وأشتكونيسي ودعوة أديغنيسي والله يسمع تحاوركما وإسكو الانتينا مد مقليبو إلهي أها سبحانه وتعالى كل كابا حلو سودجي إن أنتم مسهلنا إن أنتم وإن النوعاس inantu waa inan xaaladeedu ay sidaa tahay, inantu waa inan ilaahay ka soo maqlay qowlkeeda 7 sano korkooda bacdamay xaaladu sidaa tahay. cumar radia allahu tacaala canhu mararka gobol ka mid ah ma ahayn mid cinaad ahoo madax adag, muusan ahaynin madax adag oo madax adeegiisu adag yahay. mar allaala marka aayaadka ilaahay iyo nusuusta laga helo waa istaagi jiray. horaan usoo tilmaanay ninbaa intuu ka xanaajiyey asagoo damacsan inuu garaaco ee uu tumo ee dhibaato uu gaarsiiyo, yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadihiisi la xasuusiyey, khud ilcaf waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. maalin buu mimbarka istaagay. markuu mimbarka ka istaagay ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi, naagaha meherka faraha badan sheeganaya ha joojiyaano. naag 500 oo dirham ka badan lagu mehrin karaayo ma jirto, sida xaasaska nebiga gobolkood maahane, ma jirto tu kaloo lagu mehrin karo. naag ka badin kartaanina ma laha. haddii ay dhacdo inay ka badisana tallaaba laga qaadi doonaa. gabar yar oo 18 jir ah masaajidka gadaal fadhisaa farta taagtay tiriya amiir almu'miniin, maxaad ka wadaa? ilaahay ma noo fasaxayaa in allaala intaan doonno inaan meher ka dhigan karno? adigana ma noo xadidaysaa? وآتيتم إحداهن قنطارا mid idinka ka mid ah gabadhii aad siiseen qinطaar buu yidhi ilaa subxaanaه wa tacaala wa kun diinaar. qinطaar waa lacag fara badan, sidaa darteed ayaa ilaahayna noo xadidin ee uuna yidhi qinطaar iyo xoolo fara badan meer looga dhigo. adigana ma 500 baad noo gooynaysaa? tubtu ila allah buu yidhi, ilaahay baan usoo laabtay cumar, ilaahay ayaan u tawba keenay, ilaahay ayaan usoo rujuucay, ilaahay ayaan usoo laabtay. gabadhaasa xaqa ku taagan, anigana waan qaldamay, raali ha layga ahaado. radia allahu tacaala canhu. wاladiina إidaa dukiruu بآياaت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. cمر nin halyey ah buu ahaa walaalaya, cمر nin racyada jecel buu ahaa رaضي الله تعالى عنه. cمر taariikhdiisa waa shay aad iyo aad u cajiib badan walaalayaal. adduunku baahi buu u qabaa maanta cumar oo kale inuu yimaado. haddii cumar loo soo celin lahaa xikmadda rabbi keeni lahaydna aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd. abaar baa dhacday, dadkiibaa waxay cunaan waayeen, caamur ramaad baa lagu magacaabay, mashaakil fara badan baa yimid, raciyadiisii iyo dadkiisii abaar ba-anoo abaartii dabadheer oo kale ah intay asiibtaa timir la qaybinayaa walaalayaal, timir baa la qaybinaa. mimbarka ayuu ku istaagay cumar, ummadduu khudba u akrinayey, ummadda ayuu u khudbaynahayey. calooshiisa baahi way qaylisay, jiiq ayaa ka yeertay calooshiisa. waayo qofku markuu aad u soomo ama soonku maalintaa uu ka bato ama raashin uu cuninoo baahi qabato, calooshiisa way qaylisaa, dhawaaq baa ka soo baxa. mar allaala markay dhawaaqday calooshii baahi daraaddeed, dadkiina uu u khudbaynayo, cumar wuxuu yidhi, calooley jucjuclay ama ha jucjuclaynin, wallaahi inaan xabad timir ah kugu ridaynin ilaa ay muslimiintu dhargaan.
ilaa ay muslimiintu dharagto wallahi inaan xabad timira kugu soo ridaynin ama juucdheh ama jaacdheh ama qayli ama ha qaylinin radia allahu tacaala canhu. kow marka madaxna laka dhigo waxaan isku daynaa inaan wax isku dubno, waxaan isku daynaa marka labaad in guryo la dhisto, waxaa la isku dayaa marka saddexaad bangida adduunkii wax lagu shubto, waxaa la isku dayaa xaalad noocaas oo kale. xabad timir ah ayuu calooshiisa u diiday cumar ilaa ay muslimiintu dharagto. jucjuclay buu yidhi ama ha jucjuclaynin, wallaahi aan xabad timira kuugu ridaynin jaray muslimiintu dharagto radia allahu tacaala canhu. cumar wamaa adraakum maa cumar. cumar nin noocaasuu ahaa, nin kaftamaya ma uusan ahayn, nin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. 40 karbaash baa lagu dhuftaa, rasuulkana uu jideeyey qofkii khamri cabaa. khamri cabkiibaa batay. cumar iga warrama buu yidhi, haddii dadka khamrada cabaa bacdama ay bateen aan ka dhigno 80 karbaashood lagu dhufto, 80 karbaashood haddii lagu dhufto. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu raggu amray inay markay naagaha furayaan dalqad ay tuuraan, laakiin raggiibaa intay axmaqiin noqdeen 10 baan kugu furay, 3daadaad qabtaa, kan baan ku dhahay, hooyadii baad igala mid tahay, qaada naa tag bax, naa ka tag guryaha, iga bax gurigayga. xaaladda intay keeneen cumar radia allahu canhu arrin ragga loo baahnaa inay ta'ani iyo ka fiirsasho ay la yimaadaan yay ku degdegaan buu yidhi. nin kasta oo saacaddan laga bilaabo naagtiisa 3 dalqa ku fura, 3day uga furan tahay. xaaladaha noocaas oo kale cumar radia allahu tacaala canhu. cumar nin cajiib badan buu ahaa walaalayaal, cumar nin qiimo badan buu ahaa walaalayaal. cumar alfaaruuq wuxuu ahaa nin ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay shujacnimii geesinimo, wuxuu ku manaystay ilaah subxaanahu wa tacaala diracnimo, wuxuu ku manaystay war iyo xalaal miradnimo, wuxuu ku manaystay xukun toosnaan, wuxuu ku manaystay cibaado diin alleh oo lagu dhaqmoo lagu camal falo radia allahu tacaala canhu. cumar xaaladiisu saasay ahayd. mararka gobol ka mid ah hadduu arko diinta alloo lagu xadgudbaayo muusan dul qaadan jirin. mararka gobol ka mida wuu saamixi jiray dadka, mararka gobol ka mida raciyadiisa waa u dhexgeli jiray. cumar radi allahu canhu xaaladiisu saasay ahayd. maalin maalmaha ka mid ah masaajidka nebiga ayadoo lagu jiro yaa 2 nin intay geeska masaajidka fadhiisteen yay sheeko bilaabeen. waa iska sheekaystaaneen, codkoodiyaa kor noqday qaylo. nin ka mid ah saxaabada meesha fadhiyey yaa intuu dhagax qaatay cumar, dhagax yar oo qururux ah yuu saa ugu tuuray. wuu usoo jeedin rabaa inuu qayliyuu diidayaa. saana usoo fiiriy buu dhahay waaba cumar radia allahu canhu. cumar waayabe radia allahu canhu. mar allaala markii cumar uu noqday ayaa waxaa dhacday baa la yidhi inuu yidhi kaalay. wuu u yimid, 2daa nin ii keen buu yidhi. 2dii nin baa loo soo kaxeeyey. 2dii nin markii loo keenay oo meeshu ay yimaadeen, cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi min ayna antuma, war xaggee degantihin, xaggee ka timideen, xaggee degan tihiin? daa'if baan degannahay bay dhaheen. wallaahi ahlu beled haddaad ahaan lahaydeen waa idin xanuunjin lahaa buu yidhi. idibdaraa idinka badatay, waan igaraaci lahaa, low jactukuma waa idin xanuunjin lahaa, waa idin karbaashi lahaa. ma codadkiinaad masaajidka nebiga kor ugu qaadaysaan sala allahu calayhi wasalam? codkiina maad kor ugu qaadaysaan masaajidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam? war say idinka noqotay? war xaaladiina waase ma codkiinaad kor ugu qaadaysaan beydka nebiga sala allahu calayhi wasalam? masaajidkii nebigee shariifka ahaa yaad codkiina kor ugu qaadaysaan miya? say idinka dhacday? haddii waxaad ku badbaadeen inaad noqoteen dad magaalada aan deganayn, reer daa'if aad noqoteen. wallaahi haddii reer madiine aad ahaan lahaydeen, haddii aad noqon lahaydeen kuwa magaalada degan, waani garaaci lahaa buu yidhi. waani garaaci lahaa oo waxaa dhici lahayd buu yidhi inaan idin xanuunjin lahaa, waa idin xanuunjin lahaa, xaaladaasaan idin samayn lahaa, laakiin dib damba ha ugu noqonina. cumar radia allahu tacaala canhu raciyadii aad iyo aad buu ugu dadaalay. cumar radia allahu tacaala qof aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. sharaf iyo wanaag buu ilaahay siiyey, qiimana ilaahay waa ku manaystay subxaanahu wa tacaala bacdamay arrintu sidaa ay tahay. cumar futuuxaadkaa faraha badanna uu ilaahay sabab uga dhigay, islaamkii meel kasta uu ku fidayo markaa faafayuu gaarayo, in badan buu aad u jeclaa, tamanin jiray inuu shahaada ku dhinto, inuu ilaahay shahiid ka dhigo. cumar wuxuu tamanin jiray shahiid ilaahay jidkiisa uu ku shahiido. rabbina wuu ka baryi jiray inuu darajada sharaftaa shahiidnimada uu gaarsiiyo, laakiin wuxuu oran jiray allahuma arzuqnii shahaadata
fii sabiilik wajcal mawtii fii baladi rasuulik. allahu akbar. allahuma arzuqnii shahaada. ilaahu shahaado igu arsuq. ilaahu shahiid iga dhig oo jidkaaga aan ku shahiido. geeridaydana beledka nebiga ka dhig. aad baa loola yaabi jiray. aad iyo aad bay dadka ula tacajubi jireen hadalka cumar. cumaruu isku kaa qabataa shahaadana hesho, shahiidnimona aad ku dhimato, beledka rasuulkana aad ku shahiido. ma macquul ba? mana baxaayi, beledkaygaan joogayaa. ma dhaqaaqayo, meeshaydaan joogayaa. iyo waxaan rabaa shahiidnimo. ma isqabataa? jawaabtu waa maya. wax isqabta ma aha, wax iskeeni karaa ma aha. sidaa darteed cumar radia allahu tacaala canhu aad buu alla uga baryi jiray shahaado in lagu arsuqo, geeridiisana aan laga bixinin beledka rasuulka sala allahu calayhi wasalam. cumar asoo xaaladiisu ay sidaa tahay, maalin maalmaha ka mid ah isagoo soo socda, habeenimuu soo baxay. mar allaala markuu soo baxay masaajidka salaada subax inuu markaa soo tukaduu soo aaday. markuu masaajidka soo galay weli salaadii subax lama gaarin, dad hurdaayey waxbaa jiray, dadkii buu tootoosiyey radia allahu tacaala canhu. abu lu'lu almajuusi ninka lagu magacaabo ghulaam addoon buu ahaa. muqiira ibnu shucba ayaa lahaa. muqiira ibnu shucba ayuu sugnaaday. ninkaasaa intuu ciil u qabay cumar radia allahu canhu wuxuu u samaystay midi 3 af leh, 3 meel wax ka dishaa. taariikhda qaar labay tilmaamaysaa, 2 meel wax ka dishaa ayuu watay. hal bil ayaa wuxuu ku samaynayay afees. hal bilna sun buu dhexgeliyey. hal bil oo kaamil ah yay sun ku dhex jirtay. abley buu watay ama midida 2 af wax ka dishaa. cumar radia allahu tacaala canhu wuu soo baxay, dadkii buu kiciyey. rajul wuxuu ahaa jahriyo aad u cod dheer cumar radia allahu canhu, aad buu codkiisii u dheeraa. mar allaala markii dadkii diyaar garoobeen oo salaadii xilligeedii la gaaray, abu lu'lu almajuus wuxuu isku soo qariyey mugdiga habeenkii. mixraabka dhankiisa ayuuna soo galay. dhanka mixraabka ayuu usoo galay, asoo dhanka mixraabka saa ugu jira. cumarna radia allahu tacaala canhu intuu saa u galay salaadii, takbiirtii ixraamka uu ku dhuftayoo allahu akbar uu yidhi, abu lu'lu wuxuu damcay inuu u soo baxo ee uu ku dhufto cumar midida. laakiin wuxuu is yidhi waa rakacadii koowaade, bal u kaadiyo u aayari, ta labaad ha galee, ta labaad ha galo. cumar rakacadii koowaad buu dhameeyey radia allahu tacaala canhu, tii labaad buu istaagay. qolaa waxay tilmaameen rakacadii koowaadba inuu dhibaatada gaarsiiyey. habeenkaa wuxuu akrinayay suuratu yuusuf radia allahu tacaala canhu. qaala inamaa ashkuu bathii wa xuznii ila allah wa aclamu min allahi ma laa taclamuun. axaadiista qaar ba waxay tilmaameen suuratu naxli inuu akrinayay. say noqotaba inamaa ashkuu bathii wa xuznii ila allah. cabdullahi ibnu cabbaas dadka gadaal ku tukanaya ku jiray buu yidhi, wax aanu fahmay ma jiro ilaa qiraa'adii cumar oo go'day maahane radia allahu tacaala canhu. markuu saa u akrinayay oo aayaddaa uu gaaray, masaajidku waa mugdi, saa darteed si fiican oo bayaana dadkii loo kala arki maayo. intuu soo baxay ayuu 3 meel uga duray, tii weliba meeshaan xundhurta hoosteeda ahayd ayaa ugu dhib badnayd, xoog u geliyey. saasuu ugu jiiday, weliba saasuu ugu jiiday. markuu ka soo bixiyey cumar wuxuu yidhi aqatalanii am akalanii dhi'b. ma i dilay mase waraaba i cunay radia allahu tacaala canhu. abu lu'lu dadka safkiiu saas usoo dhex maray, labada qofood ee dhinacyaalkiisa joogee saas uu usoo dhex marayo waxba ma dhaafin. 13 qofood inuu ku dilay iyo taariikhdu qaar tilmaantaa. qaar way ka badiyaan, qaarna way ka yareeyaan. qof kastuu saas usoo dhex maro waa midi 2 af leh, markaasuu dhinacan iyo dhinacan dadku ay daateen. mar allaala markuu banaanka usoo baxay ee uu is yiri baxsee mataqaanaa ka fako, yaa nin salaadii ka soo daahay maalintaa. nin salaadii ka soo daahay
oo aad iyo aad maalintaa intuu usoo daahay soo geli rabo bustana saa ugu daboolan tahay ilaa magaalada madiine aad bay u qabow badnayd yuu arkay ninkaanoo midi dhiig leh wata wuu ku waabiyey laakiin yarka wuxuu sameeyey bustihii intuu soo qabtay yuu saas ugu daboolay wuu dhacay markuu dhacay abulu'lu uu is yiri waa lagu qabtay naftiisuu dilay mididii uu watay ayuu isku dilay cumar intuusan dhiman asaa hortii dhintay cumar radia allahu canhu dhiiggii baa socda wuu istaagsanaan waayey waa mixraabkii nebiga sala allahu calayhi wasalam gacanta intuu gadaal saas usoo taagay yuu cabdiraxmaan ibni cawf oo ku aadanaa uu soo qabtay markaasuu meesha keenay cabdiraxmaan baa salaada intii dhineed dhamaystiray rakacadii kale radia allahu tacaala canhu oo si boobsiis ah cumar waa yaalaa wiilkiisii cabdullaahi bni cumar ayaa soo baxay wuxuu soo qaaday camaamad la damcay in lagu xiro dhiiggana markaa looga joojiyo cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi markaan damcay inaan ku xiro gacantayda waxaad moodaa inay calooshiisa sii gelayso cumar radia allahu tacaala canhu inay calooshiisa ay sii gelayso xoogga uu ugu duray darteed godka ay ka dhigtay midida darteed xsaabaa lagu sameeyey war ordaha soo fiiriya yaa idilay buu yidhi radia allahu tacaala canhu markaasaa lin waxaa ku dilay abulu'lu almajuus ninka lagu magacaabo abulu'lu markii la yidhi ayuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale ilaahii dhimashadayda iyo duritaankayga aan sabab uga dhigin qof muslim ah radia allahu tacaala canhu qof muslim ah ma haboono qof muslima dhiiggiisa inuu daadiyo ilaahayaa mahad iskale majuusi iga dhigay buu yidhi ilaahay baa mahad iskale qof muslima uusan igu sababin radia allahu tacaala canhu cumar waa lasoo qaaday cumar muqshi miir dabool baa ku dhacay cumar waa lasoo qaaday gurigiisiyaa la keenay dadka gadaashiisay soo socdaan cali bn abi aalib wuu naxsan yahay wuu oynayaa xabsa binti cumar kasii daran waa lasoo qaaday cumar radia allahu tacaala canhu gurigiisiyaa markaa la keenay mar allaala marka gurigiisii sidaa loo keenay oo saa loo dhigay waa muqshi waa miir daboolan yahay raggii oo dhan meeshaasay taagan yihiin dumar ay la socoto xabsa radia allahu tacaala canhaa aabbaheed waayee yaa dhinacaas kale soo galay oo daaha saa u dhexaysa meeshaasay markaa meeshay ka oynayaan cumar wuu suuxsan yahay cumar wuu muuldaboolsan yahay saxaabadii meeshay fadhiyaan dadkii gobol ka mida meeshay fadhiyaan taabiciyiintii cumar saakid yaa amiira almu'miniin wuu aamusan yahay yaa cumar ibn alkhadaab waa shib wuu miir daboolan yahay way oynayaan dadkii qaaraa meeshaa fadhiya dumarkii intay fadhiyaan qaar baa oynaya ilaa qoraxda markay soo bixi rabtay ayuu indhaha soo kala qaaday radia allahu tacaala canhu cumar mar allaala markii ay qoraxdu soo bixi rabtay ama ay soo baxdayba yuu indhaha saa usoo kala qaaday halkaanuu fiiriyey dumar baa oynaya meeshaanuu fiiriyey rag baa wada fadhiya ma jirto maxaa meesha idin keenay maxaad la oynaysaan maxaa waaye dhiiggaan iga socda dhiig baa daadanaya hadalka ugu horeeyey ee cumar uu ku hadlay wuxuu noqday uu ahaa asalaytum ma tukateen allahu akbar ma tukateen maxaa waaye dhiiggaan ma jirto maxaa meesha idin fadhiisiin ma jirto maxaad la oynaysiin male asalaytum ma tukateen qaaluu nacam ya amiira almu'miniin haa waa tukanay mu'miniinta amiirkeediio qaala alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa mahad iskale ilaahay ayaa mahad iska leh waayo dheef iyo nasiib kuma laha liman taraka asalaa qofka salaada ka taga nimankii salaada ka taga iyo dadka salaada ka taga dheef ay leeyihiin ma jirto dhiigaa socda jareexaa socotaa gacanta marka la geliyo calooshiisay gaaraysaa maxaa igu dhacay isbitaal ii qaada inta ii waxeeya kan ii waxeeya ma jiro ma tukateen waa hadalka ugu horeeyey ee cumar markuu dhaha kala qaaday afkiisa ka soo baxay radia allahu tacaala canhu war hooy ma tukateen
salaadii ma tukateen. waayo waxaa ugu dambaysay asagoo qur'aan akhrinayo ummadda dujinaya in uu qayliyey. waxa ugu dambaysay in la tooreeyeeyey oo midi caloosha laga geliyey asagoo salaadii u taagan. waxa ugu dambaysay miir asagoo cabdiraxmaan ibni cawf intuu soo qabanayo maxraabka soo gelinayo. waxa ugu dambaysay xaalad noocaas oo kale ah waa ku miir daboolmay. saasay xaaladiisu noqotay. arrintaa asagoo ku jira indhaha markuu soo kala qaaday maxaa idin fadhiisiiyey, war maxaa dhacay, mashaakilka jira maxaa waaye, ma jirto. salaadii buu ka fakerayaa, qalbigiisay ku jirtaa, way ku weyn tahay. ma tukateen salaadii. qaaluu nacam ya amiira almu'miniin. qaala alxamdu lilah. ilaahay baa mahad iskale, waayo xad iyo dheef uu ku leeyahay iyo nasiib ma jira islaamka qofkii salaada ka taga. aabay cabdullaahi bni cumar, ya bna cumar ya cabdillaah labayka ya abi, biyo ii keen. hooyo biyo iiga soo qaat. cabdullaahi wuu baxay, wuxuu u keenay galaas biyo ah. wuxuu moodayay inuu cumar rabo inuu cabo biyaha inuu cabo ayuu u malaynayay. markuu galaaskii biyaha u keenay uu siiyuu yidhi aabe wax yar aan ku fadhiisiyo. war biyaha aan ii keen ku iri biyahan ma aha. laa umman laka, hooyadaa ku weysay, bax biyo waysqaada ii keen buu yidhi radia allahu tacaala canhu. ma tukanine, allahu akbar, ma tukanine, biyo waysqaad aan ku weyse qaata ii keen. cabdullaahi biyihii buu u keenay. ifadhiisi aabe sidaada ku weys qaado. maya ifadhiisi. waa lasoo fadhiisiye, wuu weyse qaatay. salaadiibuu fadhiga ka tukaday radia allahu tacaala canhu. waayo salaadii ma tukanin, salaadii buu ka fakeraya. waa sahaydii islaamka, wixii uu qiimaha badnaa, wixii ilaah subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga looga gaari lahaa. waa sahayda maalinta u horaysa layska xisaabaya qiyaamaha camalka ugu horaysa. xaaladahaasoo dhan buu markaa og yahay. sidaa darteed inta lasoo fadhiisiyey ayuu markaa tukaday. casiir baa loo keenay cumar radia allahu tacaala canhu. markii casiirkii loo keenay uu cabay, yaa meeshii jaraaxada iyo dhaabaca laga gaarsiiyey kasoo bixin biyihii. khalaas qofka hadduu meeshaa gaarana waa gabagabo, meeshaasay kasoo baxeen. xaalku markuu meeshaa maraayay walaalayaal, cumarna dhibaatada uu ku taagan yahay, dhibaatadaa la gaarsiiyey. laakiin ilaahay uu u mahdiyey inuusan qof muslima dilin, ayuu yidhi cabdullaahi bni cumar aaway, waa ikanaa orod oo caaisha u tag. caaisha u tag, waxaad dhahdaa cumar ha idhihin amiiruulmu'miniin, aniga maanta mu'miniinta amiir uma ihiye. waxaad dhahdaa cumar wuxuu kaa codsanayaa haddii aan dhinto in laygu duugo abubakar, nebiga iyo abubakar meesha ka bannaan jembigooda. iisoo weydii, hadday ii ogolaato oy iisoo ogolaato waa sidii la rabaye, ordo akhbaar ii keen. cabdullaahi wuu soo baxay, caaisha u yimid, wahya tabkii ayadoo ooynaysa. halyey baa dhintay, halyey baa sakaraad ah, halyey baa la duray, ninaan laga samri karin baa socda, nin aad i aad loogu oonqabo loogu baahi badan yahay ayaa ka tegaya adduunka. wuu u tegey cabdullaahi ibni cumar. caaisha markuu u tegay arrintii buu u sheegay, way u fasaxday. waayo 3 meel bay ahayd. meelna nebi moxamed baa lagu duugay, meelna abubakar baa ku duugan, hal meel oo saddexaad iyo buqco kalaa bannaanayd. caaisha waxay tiri anaa iskugu talagelaya meeshaa, laakiin way u doortay cumar radia allahu canhu. mar allaala markuu cabdullaahi soo laabtay ee uu yimid ayaa wuxuu yidhi ii soo fariisiya, akhbaar maad ii wadaa? haa, maxay tahay akhbaarta? sidii aad jeclaydoo. caaisha way kuu fasaxday, wayna kuu ogolaatay. waa dumar buu yidhi, haddana waa noolahay. inay iga xishootay baa dhici karta, ee haddaan dhinto oo lay kafano oo janaasada lay saaro, mar labaad haddana i weydiiya. hadday ii ogolaatana igu aasa, hadday ii diidana qubuuraha baqiic igeeya. waayo hadda intaan noolahay waa laga yaabaa inay iga xishoonaysa radia allahu tacaala canha. radia allahu tacaala canha caaisha. xaalad markay meeshaa maraysa cumar wuxuu yidhi ciidda dhabanka ii saara, dhabanka ii saara, dhafoorka ciidda ii dhiga, amiirulmu'miniin ha i dhihina, aniga maanta mu'miniinta amiir uma ihiye, aniga maanta mu'miniinta amiir uma ihi. cumar radia allahu tacaala canhu nin kheyr badan buu ahaa walaalayaal.
nin sharaf leh oo wanaag leh oo ilaahay cizi iyo karaamo siiyey ayuu ahaa. cumar radia allahu tacaala canha faraatiga uu watay, faraatiga uu qaadanayo waxaa ku qornaa kafaa bilmowti waacidan, kafaa bilmowti waacidan, geeri waxaa kugu filan wacdi, wacdi geeri baa kugu filan. faraatigiisay ku qoran tahay radia allahu tacaala canha. loofaa ku sawiran faraatigeena maanta. sidaa darteed baa cumar radia allahu tacaala canha kafaa bilmowti waacidan faraatigiisii ku qornaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay saan soo tilmaanay cizada iyo qiimaha iyo karaamada, sharafta iyo wanaaggaasuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. cumar mar allaala markii gebagabadii la gaaray, lasoo gaaray, waa uu dhintay radia allahu tacaala canhu. cumar saan soo tilmaanay wuxuu tamanin jiray inuu shahaado helo oo jidka bixin, taana ilaahay ayaa u ajiibay subxaanahu wa tacaala. dhowr duritaan ayaa lagu duray, taasoo gaarsiisay inuu dhinto habeen arbaca ah, 3 ay ka tagtay ama ay ka harsan tahay bisha dilxaj ayay ahayd sanadii 23 min alhijra, 23 ee hijrada. wuxuu nasiib u yeeshay, ayaana u yeeshay in lagu aaso nebiga iyo abibakar jambigooda. sidii baa dhacday oo mar allaala markii la waday caaisha mar labaad ayaa haddana fasax laga qaatay, wayna u fasaxday sida dardaarankiisa uu ahaa, sida dardaarankiisaba uu ahaa. saas ayay ugu fasaxday in lagu aaso jiwaarka iyo derisnimada sayidkiisii waa rasuulka sal allau alay wasalam maxamed ibni cabdillaahi iyo sayidkiisii kale abibakrin asidiiq, xujradii nebiga sala allahu calayh wasalam. ilaa haddana meeshaasay mawjuud ku yihiin oo masaajidka nebiga ee madiina munawara markaa ah. cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaah, ilaahay ha raali geliyo, ilaahay ha ka raali noqdo. ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa habkii loogu talagalay iyo sidii xaqiiqda ahayd ayuu markaa ula yimid. walaalayaa taariikhda cumar qiso cajiib badan baa ku jirta, cibro ayay u tahay ummadda. ina fii dalika la cibrata liman yakhshaa, sida habsamida leh, sida cadaaladnimada leh, sida geesinimada leh, sida firfircoonaanta leh, diinta alle loogu camal falay, raciyada iyo dadka loo taliya sida loo hagaajiyey iyo sida loo kala maamusay iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka faraha badan uu ugu manaystay. gebagabadiisiina ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay inuu meeshaa helo, makaankaa sharafta leh uu gaaro. cumar saasuu markaa ahaa. walaalayaal taariikhdiisana mid laga dhargi karaayo markaa ma aha, bacdanay xaaladdu sidaa tahay. aadna ha loo dadaalo, diinta rabbina ha lagu dhaqmo, khayrkii wanaagana ha lagu socdo, khaasatan khulafaau raashidiin, 4 khulafee abibakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali ah. si fiican ha loogu daydo, waayo rasuulku si khaasa ayuu kagala dardaarmay dadka 4 ah, si khaasa ayuu dadka u tilmaamay in si sunnadooda iyo waxyaabahooda kale la qaato, goosdambeedkana lagu qabsado. rasuulka sala allahu calayh wasalam maxaad noo dardaarmaysaa markii la yidhi uusiikum bitaqwa allah buu yidhi, cabsi allaan idin dardaarmayaa, wasamca wataacan idin dardaarmayaa, inaad ismaqashaan ood is ateecdaan, madaxda aad maqashaan ood ateecdaan. wa in ta'ammara calaykum cabdun, addoon ha idin taliye, addoon xataa ha idin taliye inaad maqashaan ood ateecdaan. riwaayad qaarkood waxay ku dartay addoon xabashi ah oo timihiisa sida zabiibka ay u kuuskuusan yihiinba ha idin taliye inaad maqashaan ood ateecdaan. waxaan idinkala digayaa idinkii umuuraha gadaal laga keeni doono, waayo wax kastoo gadaal laga keenayo waa bidca, bidco kasta waa dalaal iyo baadi. facalaykum bisunnatii وسنة خلفاء الراشدين المهديين، waxaad qabsataan ood ku dayataan sunnadayda iyo khulafaa urashidiin sunnadooda kuwaasoo hanuunka badnaa. waxaan idinkaga digayaa macnaa gusdambeedka ku qabsada, waxaan idinkala digayaa idinkii umuuraha cusub, wax kastoo gadaal laga keeni doona waa bidca, bidco kasta waa dalaal iyo baadi. xaalada noocaasa markaa ogaada. abubakar qisadiisana saasay ahayd, cumar radia allahu tacaala canhu asagana qisadiisii saasay ahayd. habkaasuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala qaatimadiisii
ku gabagabeeyey. haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala saxaabiga kale ee noogu xiga ama khulafaa raashidiin kiisii saddexaad waa cuthmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu yaanu qisadiisa geli doonaa. allah xaqa waxaanu ka baryanaa inuu xaqana waafajiyo, daacadiisa iyo diintiisa nagu sugo, ummad ku dayata nebigooda inuu ilaahay naga dhigo, ummad ku dayata khulafaa raashidiin inuu ilaahay naga dhigo. habkii iyo wanaagay wax u maamulayeen iyo sida ay wax u wadeen maba la gaari karee ummad soo dhadhaweysay inuu ilaahay naga dhigo. rabbiga xaqa waxaan weydiisanaynaa nebi moxamed micigiisa iyo jambigiisa inuu ilaahay nagala mid dhigo, gacantiisa shariifada ahna ku waraabiyo inuu ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala. khulafaa raashidiinna inuu rabbigeena tusiyo qiyaamaha marka aan gaarno. wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu